السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا درويش تي في iyo barnaamij gaar ah oo aan uga hadli doono xaaladda Soomaaliya guud ahaan sidaasoo kale waxaanu barnaamijkan si gaar ah aanu u eegi doonaa bal waxa ay tahay siyaasadda dawladda federaalka ee Soomaaliya barnaamijkan ayaa sida caadada ayaan waxaan sida uu u furan yahay dhammaan dadka Soomaaliyeed ee raba inay ka qayb qaataan arrimaha geedi socodka ama danaynaya geedi socodka nabadeed iyo dawladnimo ee wadanka Soomaaliya barnaamijkan ayaan si gaar ah waxaanu hadii Ilaahay idmo aan uga hadli doonaa arrimaha waqooyiga Soomaaliya iyo dawladda dhexe ee saldhigeedu uu yahay magaalada Muqdisho waxa ay tahay siyaasadeedu sida aad ogtihiinba gobolada waqooyiga Soomaaliya ma ay gaarsiisna dawladda dhexe hadii ay tahay awood ciidan iyo qaab siyaasadeedba koonfurta Soomaaliya gaar ahaan madaxda joogta ayaa iyaguna kala si marba hadba madaxweynihii yimaada si uu la dhaqma ama uu uga hadla waxa jirtay xilli qaar kamid ah madaxda ama wadamada caalamka ay isticmaali jireen nidaam si gooniya in loola kala macaamilo maamulada gobolada gaar ahaan kuwa waqooyiga iyo kuwa kalaba iyo dawladda federaalka hase ahaatee dhawaanahan dawladda dhexe ama dawladda federaalka ayaa iyadu waxay aad ugu guuleysatay in ay caalamka ay ka hesho sidii ay dawladani ay u noqon lahayd dawlad aqoonsi ka haysata caalamka wadamada caalamkana ay uga dambeeyaan dhammaan arrimaha wadanka Soomaaliya dawladda dhexe ama dawladda federaalka ayaa waxaad moodaa waqti badan inay ku bixiso kaliya dhaqaale ahaan ama siyaasad ahaan gobolada koonfurta Soomaalida ama Soomaaliya iyadoo aanan marka waqti dhaqaale iyo ciidan ama siyaasadba aan la gelin gobolada waqooyiga Soomaaliya haddaba waxaan rabnaa inaan hadii Ilaahay idmo qadka aan u fasaxno dad badan baa ila soo xiriiray oo iyagu naftigooda barnaamijkan aad u daneynaya in ay fikirkooda iyo aragtidooda ay ka dhiibtaan hadii Ilaahay idmo qadka waa idin furan yahay numberka shaashada ku xusan ayaan rabnaa inaanu kaga hadalno gaar ahaan sababta maxaa sababay dawladda dhexe ama dawladda federaalka in ayan maamulo ka sameyn gobolada waqooyiga Soomaaliya hadii qadku iga culus yahay ama aydan barnaamijka si toos ah aydan u arki karayna waad ii sheegi kartaan hadii Ilaahay idmo waxaan isku dayayaa hadii Ilaahay idmo inaanu streamingka wixii marba ka qaldan inaanu hagaajino hadii Ilaahay idmo waayahay qadka telefoonka numberka aad naga soo wici kartaan waa 6123238 qadkana waa idin furan yahay arrimahaas ayaan rabnaa inaanu ka hadalno hadii Ilaahay idmo waxaan isku dayayaa dad isoo wacayay mar dhow inaan qaarkood aan ku celiyo ama aan qadka u fasaxno hadii Ilaahay idmo qofkii raba inuu sidaas oo kala soo waco idinkana qadka telefoonka waa idin fasax waadna soo wici kartaan hadii Ilaahay idmo hadii Ilaahay idmo waxaanu kaga hadlaynaa sidaas oo kale barnaamijkan madaxweynaha dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhawaan waxa uu qabtay kulan uu ku qabtay magaalada Muqdisho kulankaas oo lagaga hadlayay arrimaha Soomaaliya geedi socodka dawladnimo iyo nabadeed sidaas oo kalena lagaga hadlayay arrimaha doorashooyinka waxaana jiray dabcan su'aalooyin kala duwan oo madaxweynaha la weydiiyay dadkii qaar kamidana waxa ay aad u saluugeen hadallada madaxweynaha uu ka yiri arrimaha qaarkood marka laga weydiiyay gaar ahaan arrimaha waqooyiga Soomaaliya iyo gobolada qaarkood halka ay ku xisaabsan yihiin doorashooyinkooda ama sida ay uga soo qayb gali doonaan doorashooyinka arrimahaas oo dad badanna social media ay uga hadleen ayada naftigeeda waxay noqon doontaa qayb kamid ah waxyaalaha aanu barnaamijyadeeda aan uga hadlayno marka sidaan idin sheegayba qadka telefoonka waa idin fasax qofkii raba inuu na soo waco ama ka qayb qaato barnaamijka hadii Ilaahay idmo waa isoo wici karaa numberkaygana waa numberka shaashada ku qoran 612
labo saddex labo soddon iyo sideed lixdan iyo lix. aad baan idinka mahad celinayaa dhammaantiinba, qof allaaliyo qofkii danaynaya ee barnaamijka qadka telefoonka waa idin fasaxan yahay. insha allah waxaan siin doonaa qofkan ugu horeeya oo hadda waayahay walaal, dhinaca whatsappka naga soo wac, dhinaca whatsappka numberka whatsappka nagala soo xiriir. waaya qofka dibadda jooga ama Europe sida hadda qofkan soo wacay oo kale oo numberkiisa caadiga markii hore iga soo wacay, haddii aad barnaamijkan rabtid inaad ka qayb qaadatid ama aad fikirkaaga ka dhiibatid sidee u aragtaa siyaasadda dowladda ee magaalada Muqdisho arrimaha waqooyiga Soomaaliya, maxaa sababay in dowladda xamar ay wax siyaasad ah ama wax muhiimiyadaba ay siinin arrimaha gobolada waqooyiga Soomaaliya, sidaas u aragtaa siyaasadda madaxweynahan ama madaxdii ka horeysay ee kale arrimaha ku aadan. waayahay asalaamu calaykum, sidee idin maqashaa? السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كسو دو برنامجك waxaa tahay qofkii ugu horeeyay oo hadda intaanu barnaamijka bilownay ka soo qayb galay. kusoo dhawow aragtidaada, waxaan rabnaa bal inaanu su'aal aanu isweydiino. waxaanu aragnaa dabcan dowladda dhexe ama dowladda federaalka in ay xarunteeduna tahay kana shaqayso magaalada Muqdisho, ayna waqti badan iyo dhaqaale badanba caalamka iyo dowladuba ay geliso arrimaha koonfurta Soomaaliya. maxaa diiday? waa barnaamijka su'aalahan isweydiinayno. maxayse tahay siyaasadda dowladda dhexe ama dowladda federaalka marka ay timaado arrimaha waqooyiga? waxaanu ognahay koonfurta Soomaaliya inay ka jiraan maamulo kala duwan. maxaa diiday iyaga naftigooda in loo sameeyo maamulo? seesa u aragtaan dadka siyaasadda madaxweynaha haddan jooga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka ay timaado arrimaha waqooyiga Soomaaliya? kusoo dhawow barnaamijka. dabcan wixii su'aalahan waa ku weydiin doonaa. mahadsanid walaal, magacayga waxaa la yidhahaa aadan maxamed, kuna inaan Sanfargeeto Norway jooga. walaal waxa weeye dowladda iminka jirta ee uu hogaamiyo Farmaajo runtii wax waa qabteen waddanka marka la yiraahdo. su-aasha sidaad u dhigtay oo ah waqooyiga maxay u qabteen? waqooyigu isku mid maaha, waqooyiga in badan bay u qabteen. run ahaantii anigu waxaan u arkaa in waqooyi marka la yiraahdo nimanka Somaliland la baxay ay in badan oo aan sadkooda ahayn ay ku heleen. marka la yiraahdo ururo caalami ha ka heleen, uu ha ka heleen, meelo badan ha ka heleen. waxaasoo dhanna waxaa u sababaha inay helaan Farmaajo siyaasadiisa oo noqotay mid khaldan, oo ahayd mid reer keliya ku koobnayd oo lagu danaystay baan anigu u arkaa. waxaan u arkaa waqooyigu inuu dadna dhintay dadna dhergeen, iyagoo mar walba run ahaantii marka Soomaaliya la eego siyaasadeedu waxa weeye. waayahay intaadan ka gudbin, waxaa tiri dadna dhinteen siyaasadda dowladdan marka ay noqoto arrimaha waqooyiga, dadna ay ka dhergeen siyaasadda dowladdan. ma noo kala caddayn kartaa markaa deegaanaadka ka hadlaysay ee waqooyiga ah oo aad tiri isku mid kuma ahayn arrimaha siyaasaddan dowladdan? waan oranayaa walaal, waxa weeye waqooyi marka la yiraahdo gobolladii waqooyi galbeed iyo waqooyi bari ee Burco ama Hargeysa ilaa iyo ma aragtay Berbera, intaasi waxay ka dhergeen waxa weeye waxa la yiraahdo aqoonsi baan raadinaynaa. aqoonsiga ay raadinayeen dowladdani waxay noqotay mid gacan iyaga ku siisa oo u hadasho, u noqotay mikrofoonkoodii. markaa waxay noqotay inay ku soo jeediso caalamkiina ay marka iyo u sheegtaan danahooda. shirarkii ugu dambeeyay ee la qabanayay ilaa iyo London, ilaa iyo Brussels, ilaa iyo meesha la yiraahdo Djibouti, intuba waxay ahaayeen reer keliya. reerkaasi waxay sheeganayeen waqooyi, iyaga ayaana wax walba la siinayay. waxa mar walba la shirayay waxay ahaayeen Farmaajo iyo kooxdiisa oo aan marnaba si siman ama equal uga wada hadlin waqooyi oo dhan, ee ah inta horboodaysa inay u hadlaan wax la yiraahdo gooni goos baan doonay oo ah torture oo kale. markii la yiraahdo hala raali geliyo, mashruucyadii gaar ha loo siiyo, wax walba gaar ha loo siiyo, lacagtii oo dhan iyaga un bay qaata, kuma soo leexiyaan. waxyaalaha ay ku soo leexiyaan waxa weeye inay ku haligaan ama ku torture gareeyaan ama ay askar
ay ku geeyaan meesha ay ku cadaadiyaan shacabkii deganaa gobolada meesha la yidhaahdo sool iyo sanaag ay geeyaan oo ciidamada ay lacagta ku siiyaan ay noqdo kuwo maaragtay dadkii ku ah dad dee maaragtay xukun military oo kale ah marka waxaan uga jeedaa waa intaa weeyada waayahay haddaba sidaad ognahay waddanka hadda doorashaa ka socota doorashadan socota adiga aragtidaada fursad bay siinaysaa dhammaan dadka soomaaliyeed in ay keensadaan xubno u qalma oo matala oo markaasi la xisaabtama xukuumaddii hadba jirta una doorta ummadda soomaaliyeed madaxweyne u qalma inuu ummadda soomaaliyeed hogaamiyo aragtidaada sidee u aragtaa bal doorashooyinkan hadda waddanka ka qabsoomayo iyo maxaa la gudboon dadka aa ka hadlay sidii gobollada degan in iyagu naftigooda ka baaraan degaan siyaasadda soomaaliya ama ay ka tashtaan dadka ku matali doona arrimaha xildhibaanada iyo dowladda aragtideeda waxaan u arkaa walaal adoo mahadsan inay qaadacaan kulligeedba ay gaar uga istaagaan oo yidhaahdaan ethoobiyaanu ku biiraynaa sababta aan saa u leeyahay waxa weeye mar hore ayaa la qaybsaday kuraastoodii oo la yidhi waxaa ini masalaya maxaa la yidhaha somaliland inta kalena waxaa ini masalaya qayb ahaan meesha la yidhaahdo puntland habeen weyto su-aala ay weydiisay gabar gobollada ka soo jeeda madaxweynihii dhammaa wuxuu ku jawaabay kuma hayo jawaab macnaheedu waxa weeye wax allaale wax lagu hayaa ma jirto labo adaa u dooroon inaad ismuujisid oo tiraahid maya taasina iman mayso oo waxa weeye kala faraaruqa ama tafaraaruqa ku dhex jira heerka waad garanaysaan heerka waxaa gaarsiiya waxa weye tafaraaruqooda qaar waxay fadhiyaan garowe qaar waxay fadhiyaan hargeysa qaar waxay doonayaan ma aragtay wax calooshooda jeebkada ku dhaca odayaashii iyo waxgaradkii midba meel buu tegayaa marka waxa weeye dadkani dhinta oo wax raja ma leh waxa kaliya oo ay doonayaan waxa weeye inayan waxba ka qaybgelin ay yidhaahdaan annagu dhimanay waanu ku dhimanaynaa sidaanu nahay waxaana dilay waxa weeye tafaraaruqeena waxaa dilay waxa weeye mid hargeysa taga oo madaxnimo laga dhigay odayaashii garaado iyo gaasi waxay ahaayeenba oo fadhiya garawe iyo meelwa yani waxa weeye markaynu xaqiiqda ka hadalno ummad ilaahay ma duleeyo iyadoo isdulaysa mooye ilaahay kama saaro qowm sida ay yihiin iyagoo iska saara mooye waayahay marka walaal waayahay aadan fargeeto su-aal aan ku weydiiyo sida aad og tahay koonfurta soomaaliya dagaaladii sokeeye kadib waa meelaha ugu dhibka badan hadda oo ilaa iyo hadda ay dagaalaad ka socdaan waxaad og tahay laga bilaabo waxaan u malaynaya haddaanan qaldanayn beledweyne ilaa iyo koonfurta soomaaliya kismaayo waxaa jooga ciidamo shisheeye oo ay ka mid yihiin etoobiyaan kenyaati ciidamada uganda burundi iyo wadamo badan oo afrikaana caalamku wuxuu ku bixiyaa dhaqaale xoog badan goboladaas iyo sidii ay nabad u noqon lahaayeen dowladduna waxay iska saartay xil dhul badan oo magaalada muqdisho ka mid ah aan la nabadgelyo aana noqon lahayn sidii ay nabadgelyo ay u noqon lahayd maxaa u diiday dowladda dhaqaalaha caalamka ee lagu bixinayo in ay koonfuri dowlad noqoto ama maamulo loo sameeyo in gobolada waqooyiga naftigoodana maadaama la leeyahay soomaaliya ka mid yihiin iyagoo naftigoodana sidaasoo kale loo gaarsiiyo dowladnimada xamartaal horta waxa weeye lacagtan ku socota xamar ee askarahan iyo waxan waa iska waa lacag iska socoto maaragtay project weeye cid doonaysa inay ka baxdana male cid doonaysa ummadani inay istaagtana ma jirto waxa weeye dadkani shiikhoodii baa dhintay taasi waa mid waxa weeye dadka xamar ku hardamaya nin waliba muruqiisa ayuu taabtay oo nin aan isa soo bixin iyaguna wax isuma ogola cidna wax ma ogola marka waxa weeye run ahaantii markaan xaqiiqda ka hadlo xoogaa dowladnimo way soo muuqataa askar baa la sameeyey niman baa laga dhiman waaya turki la yidhaha ciidamo waddanka inay u sameeyaan doonayaan laakiin dadka shacabka ah iyo qabqablayaasha horboodaya yaana shacab horane qabqablayaasha jooga ee siyaasadda ku jira bal waxaad aragtaa nin shalay ka tegay madaxweyne oo maanta qas iyo wax kala doonaya markaan ka hadlo waxaas oo dhan waxa weeye intay dowladdu la dagaalamaysa waxaa mucaaradka ah ee u shaqaynaya ajnabi iyo dowlado shisheeye ee doonaynin waddankani inuu hore u kaco ee doonaya inay waddankan khayraadkiisa iyo dekadihiisa qaataan
inta ay doonayaan waddankani horey uma soconayo lacagaha lagu bixinayo faraha badan xamar waqooyi intaa in la-eg baa lagu bixiyaa laakiin ma soo gaarto qaybaha ka mida waqooyiga waa lagu bixiyaa waqooyiga lacag fara badan inta lagu bixiyo xaqiiqda haddii lagu sheegayo ya iyo inta hub lagu soo iibsanayo yani ma malayn karaysid markaad xaqiiqda ka hadashay laakiin ma soo gaarto dadkii loogu talagalay inay gaarto ceel biyo looma sameeyo waad aragtay laascaanood biyaha meesha looga keenay ka cabaan waad aragtay markay abaar noqoto waad aragtay si ugu baaba'ayaan marka mashaakilka jira waxa weeye meesha lacag la-aani ma taale waxaa taalla waxa weeye dadna waa la dilayaa dadna waa la koolkoolinayaa labada koonfur iyo waqooyiba dadka lagu baabi'inayaana waa sool iyo sanaag iyo inta u dhiganta waayahay su-aasha ugu dambaysa aada fargeeto aad iyo aad baad u mahadsan tahay inaad barnaamijka nagala soo qeyb gashid waan kaaga mahad celinayaa doorashooyin baa soo socda doorashooyinka adigu hadalkaaga waad caddaysay oo waxaad tiri dadka gobollada degan waxaanba kula talin lahaa in ayan qaadacaan inayba ka qeyb galaan doorashooyinka iyo inayba ku biiraan etoobiya waxaan u malaynayaa mabaadi'da ah soomaaliya waan ka go-nay kuwaa ku ceeshay iyagu naftigoodana hadday ka isku waafiqi lahayaanba inay soomaaliya ka go-aan lagaba yaabay in loo soo jeesan lahaa laakiin waxaan rabaa bal inaan su-aal kaa weydiiyo arrinta madaxnimada ee hadda tartankeedu bilaabanayo November ee xildhibaano loo sameynayo ee la rabo in madaxweyne la doorto aragtidaada yaa hogaamin kara ummadan Soomaaliyeed yaase isu keeni karaya adiga fikir ahaantaada seesa la isu keeni karaa waa mahadsan tahay horta marka aan leeyahay xaqaadeen waxa la yiraahdaa hadii lagu sheelo waa la sheegaa macnaheedu waxa weeye markii la arki waayay qiimaha ay leeyihiin dadkani markii la arki waayay xaqa ay leeyihiin marka la arki waayay dilaa-aadinimadooda marka la arko sida loo daciifsanayo waxa fiican inay istaagaan meel extreme markay yiraahdaan kaba go'nay Soomaali waa wada hadal baa imaanaya iyo xaqiiqdii walowba aan hubo dadka u dhashay wadankaasi inaanay yani lahayn damiir yani ay dadkooda ku hogaamiyeen qaarkood aan lahayn marka loo soo gudbo Soomaaliya hogaamin kara Soomaali cid hogaamin karta ninka iminka jooga Soomaali ahaan mar kulli hore u dhaamaa ee soo maray wadankuna sida uu hadda ku socdo waxay noqonaysaa waxa la yiraahdo in faraqa la isku dhigo dad soo bixi doonta garan mayno inta laakiin inoo muuqata ee golaha soo istaagtay waxa weeye mid waxa uu yiri xiradaydu waa wada u laqaata male inta soo sharaxan waxa kamid ah farmaajo waxa kamid ah mid kale yiraahdo ii sheegeen Puntland Siciidani waxa kamid ah Khayre waxa yani Xasan Sheekh waxa kamid ah yani adigu marka inta midaad cod adigu haddaad noqon lahayd maanta xildhibaan ama aad kamid noqon lahayd xildhibaanadaas yaad siin lahayd codkaaga mamse ku jira mid kamid ah kuwaas oo codkaaga siin lahayd ma siiyeen anigu siyaasadda beri hore kacaankiiban siyaasadda ku jiray kowde runta markaan kuu sheego qoran siin lahaa siyaasad codkayga haddii la yidhaahdo midsi lagu khasbo kan joogaan siin lahaa soo waxaad garatay ma waayahay farmaajo laakiin waxaa la isweydiinayaa ama madaxda koonfur laga doorto ee madaxweynayaasha loo doorto ma leeyihiin karti iyo aqoon ee gobolada waqooyiga ku keeni karaan uga mid dhigi karaan Soomaaliya maya waa daciifnimada aqoon darrada waxa weeye war dadkan horta eeg waxaan oo dhan waxa ku dhamaan lahayn ma ku sheegaya haddii goboladan sool iyo sanaag xaqooda la siiyo oo ay noqdaan maamul goboleed wax la yiraahdo Soomaaliland ma jirto waxaan torturka lagu hayo ummadda Soomaaliyeed meesha way ka baxaysaa ma fahamtay macnaha sax weey waaya maanta waxa dhegeyso maanta waxa Soomaali lagu torture gareynaya waxa la yiraahdo Somaliland dadka Somaliland ka soo jeeda ee sool iyo sanaag hadday noqdaan dawlad gobol taagan Soomaaliya torture lagu haya meesha uu ka baxaya waa go'ayna ee orod reerkiina u go'a ma fahamsan macnaha xaqiiqda laga wareegaya xaqiiqdu waxa weeye horta goboladan dawlad goboleedkooda ha loo dhiso Somaliland reerkii Israaciil dawlad gobolkooda way qaadan doonaan way ku khasban yihiin
marka inay soo istaagaan oo yidhahdaan isaaq baanu gaar u go'aynaa it's impossible. marka in xaqiiqda laga hadlo aqoon darrada haysata weeye madaxda waddanka joogta iyo siyaasad xumadooda. anigu markii ugu horreysay ayaan siin lahaa maamul goboleed sool iyo sanaag. puntland torturekeedu waa dhammaan lahaa, somalilandna torturekeedu waa dhammaan lahaa. wadamadu waxay noqon lahaayeen equal rights bay nin walba noqon lahaa 18 gobol, waddankuna wuu shaqayn lahaa. laakiin iminka waxaa lagu cayshayaa waa sool iyo sanaag magacoodii oo torture loogu haya dawlad kastoo timaada. waa mahadsan. aad baad u mahadsan tahay aadan fargeeta, aad baan kaaga mahad celinaya inaad barnaamijka nagala soo qayb gashid. waayahay qofkii kale oo na soo wacaya barnaamijkan kusoo dhowaada. sida uu aadan sheegayba haddii gobolada waqooyiga ee soke ee aaminsan iyagu midnimada soomaaliyeed loo samayn lahaa maamul goboleed waaba bixi lahaa ayuu leeyahay. waxyaalaha dowladda dhexe lagu cadaadinayo ama lagu ciqaabayo ereygu isticmaalay ahaa torture lagu ciqaabayo xaqiiqdiina waa sida uu sheegay ay soo afjarmi lahayd waxa la yidhaahdo somaliland iyo dooda kala dhexaysa dowladda soomaaliya. waxaana jira dad badan oo reer waqooyiga soomaaliya ah hadday yihiin awdal iyo gobolada kaleba. walaal waxaa kala socotaa dhinaca facebooka axmed laari haddii lahaydma halkaasaad ka helaysaa axmed laari facebookiisa kala soco ama kuusoo diray anigaa kuusoo diray anaa kuusoo diray walaal. okay waayahay qofka kale ee raba inuu barnaamijka nagala qayb qaato waana soo wici karaa haddii ilaahay idmo. dad kala duwan baa kolley aad iisoo wacayay oo daneynaya barnaamijkan inay nagala qayb qaataan. insha allah wixii aan ka gaarno ayaanu insha allah soo qaban doonaa haddii ilaahay idmo. barnaamijka waxaan dib ugu celinayaa qof naga soo wacayay dhowr mar dhinaca jarmalka. dhammaantiin kusoo dhowaada. numberka iyagana waa numberka shaashadda idinka muuqda. qof walba fikirkaaga iyo aragtidaada adiga xor leh xor u ah. wixii su-aalaana waa iska weydiin doonaa. asalaamu calaykum qofka jarmalka iga soo wacay kusoo dhowo barnaamijka. وعليكم السلام أحمد aad baan ugu dhowahay adiga iyo dadka ku daawanayana aad baan idin salaamaya dhammaan. waayahay salaamullah annagana sidaas kale waa kusoo dhaweynaya. dadka waa ka reelgelinaya xoogaa live streamingka oo xoogaa hakad yara gelayay laakiin hadda waa hagaajinay insha allah. waxaan rajeynayaa inuu hakadkaasi uu ka bixi doono. waxaan rabaa inaan sidaas kale wargelin aan u siiyo insha allah. wixii laga bilaabo maanta darwish t v insha allah barnaamijyo warara oo dhammaystiranna inaad ka daawan doontaan iyadoo pageka cusub haddii lahayd ma aad ka daawan doontaan wixii barnaamijya iyo warara. kusoo dhawow haddii lahay idmo barnaamijkan aragtidaada waxaan iska weydiinaynaa guud ahaan siyaasadda madaxda koonfureed iyagu marba qabta xilka dowladda federaalka soomaaliya oo aan iyagu marnaba muhiimiyad ama siin wax ixtiraama gobolada waqooyiga gaar ahaan sidii ay u gaarsiin lahaayeen dowladnimada soomaaliya. la isweydiiyey sidaas oo kale madaxweynahan naftigiisa hadda jooga maxay tahay aragtidiisa siyaasadeed haddii ayba jirtaba. aragtidaada kusoo dhowow wixii su-aalana ku weydiin doonaa. waa mahadsan tahay axmedow adiga iyo dadweynaha ku daawanayba marka waan sidaan sheegay aad baan u salaamayaa. haddaan kusoo noqdo barnaamijka su-aasha iga weydiisay aragtida guud oo uu ka arko madaxda timaada koonfurta soomaaliya ama magaalada muqdisho madaxweynaha ka noqota ay ka haysato gobolada sool sanaag iyo cayn ama gobolada waqooyiba waa aragti kooban oo dee badanaaba waa aragnay wax dhaqdhaqaaqa ama wax waxtara ama dee wax dhaqaala ama wax mataqaanaa dee dadka materiaalka dadku waxay u baahan yihiin ay dadka ku caawiyeen ma jirto. gobolada waqooyina waa godoon bay ku jiraan. waliba gobolada sool sanaag iyo cayn haddaan xusano dee godoon iyagu kuwa waqooyi kuwa kasii xun bay ku jiraanoo iyagu waxa weeyaan laba good bay mataqaanaa hareeraha ka xigo hadda meesha u baxaan bay ku dhacayaan. marka aragtida guud nimanka koonfurta madaxda ka waxba ma soo kordhinayso. waayo de waynu aragnay raalli iyo kama ah daacadna kama ah inay dadka iyo deegaanka waqooyiga isku wada daro ay midnimo ka keenaan ama ay dadka deegaanada aan ogoleyn maamulka jabhadda hargeysa kaga soo duushay gobolada waqooyi ee haysata inay la xaajoodaan oo maamulo ay halkaa ka sameeyaanna ma jirto. marka koonfurta waxa yaalla un baan u arkaa jahwareer siyaasadeed oo aan meelna ku salaysnayn. waayahay jahwareerkaas isaga ah ma waxaad ku o-aanaynaysaa aqoon xumo
ma waxaad ku eedeynaysaa qabyaalad sida hadda madaxda qaarkoodba ay u arkaan gobolada waqooyiga ama sideedaba inay qaarkood si qabyaaladaysan ay uga eexdaan dadka la rabay oo waxaad arkaysaa kuwii dowladnimada rabay inay dowladdii madaxweynaha ninka ku fadhiya kursiga uu uga eexanayo kuwa raba goonigoosadka maxaad eedu ay tahay mise waxaad leedahay ilaa uu meesha tago qof danaynaya arrimahan kana soo jeeda goboladaasi xalkeeda lama gaarayo eedda markaynu soo jeedinayno dee eedu horta wax badan bay noqon kartaa laakiin markaaynu eegno waxa keenaya ugu badan oo keenaya waxaa kamid ah dee horta dowladda xamar joogtahay awood badan male tamar badanna male iyada aanu tamar badan lahayn dee hadalku waxbuu taraa oo dee inay dadka ay deegaanka wax soo gaadhsiiso lagamaba rabina inay hadasho tiraado dadka ay deegaankaasu waa halkaasi ka tirsan yihiin ama maamul baan u samaynaynaa baa laga rabay taana waaba ku dhicin marka eedda waxay ka imanaysaa dowlad aan awood lahayn oo xamar ka jirta kow dadka yimaada oo weliba marka la beesha daawad ninka farmaajo ugu dambeeyay marka qabiil caadi loo carabaabo uu aan aaminsanaan lahaa inuu inoo ficnaan lahaa halkan inagu qolada daraawiishta ama SCC badanaa waa dad tolnimada jecel oo badanaa waxay soo dhaweeyeen madaxda daarood laakiin maanta waa aragtaan anigu waxaan aaminsanahay madaxweyne mudulood ama hawiye baa maanta deegaanka iyo qadiyadda wax ka oran lahay laakiin waanu aragnay farmaajo wuxuu ka yidhi marka waxay keenaya waa madaxweynehoo aan doorasho isku diyaarinaya dhiirigelin iyo mataqaanaa awood badan mataqaanaa aanu haysan oo de nin iskaba baqaya ama raggii hore go-aanada adkaa maaha talabaadna dee dadka badana waxay u tirinayaan inuu somaliland hadalka u diiday laakiin siduu hadalka u dhacayay puntlandna waa ka gaabsanaya marka dee dad qandiyadoodi haddii raalli lagu geliyo reero kale dhibaatay noqonaysa waayo dadka soomaaliyeed waa dowladda soomaaliya waa burburtay reerba guryihiisa iyo deegaankiisu qabtay guri kasta iyo reer kasta deegaanku degnaabu maamul ka samaystay qof kastana xor buu u leeyahay inuu deegaankiisa iyo dhulkiisa maamul ka samaysto reer lagu ixtiraami karaana ma jirto inta xaqooda reer SCC laga qaado lama oran karo isaaq baa la siinaya isaaqna xaqooda inta laga qaado lama oran karo reer SCC baa la siinaya reer SCCna xaqooda lagama qaadi karo majeerteen lama sii karo majeerteenia marka dhibaatada halkaa ka taagan waxa weeye waayahay waxbaan rabaa inaan ku weydiiyo hadalkana waa kugu jaray hadal baa tiri madaxweynuhu dabcan beelaha uu ka soo jeedo ayaa u badan hadda kuwa ka sheeganaya hadday tahay ka siyaasad ahaan iyo hadday ka tahay xukuumaddiisa waxqabadka waa maxay sababta keenaysa madaxweynuhu waa kii tegay golaha shacabka hortiisa afkiisa ka sheegay inuu rabo maqaamka gobolka muqdisho ama banaadir inuu meel mariyo goboladaas dabcan banaadir waa meeshay degan tahay caasimadii waddanka waa meeshay dowladda federaalka degan tahay sidoo kalena xaqiiqdii waxaan ognahay goboladaas sool iyo sanaag iyo haddaan cayn wax laga qaban inay iyaguna yihiin gobolada jiritaanka soomaaliya ay ku xiran tahay sababto taa goboladaasi hadday go-aan soomaaliya ishaysato oo jiraysa ma jirto maxaa marka u diiday haddii uu maqaamka muqdishoba la tegay golo baarlamaan inuu garto tan mas-uuliyadda ka saaran gobolada iyagu naftigooda u taagan midnimada soomaaliya oo ay tahay tan uu u dhaartay maxaase kalifay madaxweynaha hadda xukunka haya inuu ka cararo ummadda degaanaadka ama uu la beesha yahay ma cabsi baa keenaysa dadka qaarkood sidaasay aaminsan yihiin maxaa keenaya madaxweyne inuu mas-uuliyaddii ka saarayd dhul ka mid ah soomaaliya uu ka cararo awal anigu wax rabay inaan dusha ka maro laakiin deeqada waxa nabarka dusha haddii aad ka dhayid hoosta baa qurmaysa marka hadda hadalkaanooba aan asturayno si fiican u dhigaya oo mataqaanaa dadkoo dhan ay fahmi karaan maya weli noo astur weliba xagga qabiilaadka ma loo baahna marka waa sax wey ka wadaa si caadaan hadalka u furaya waxaan u furayaa madaxweynaha farmaajo saa sheegtayba caqabad wuxuu ku yahay beelihii iyo deegaanadii loo tirinayay caqabadana waxaa keentay madaxweynaha farmaajo horta waa qof shaksiyana dee waxba lagama sheegi karo laakiin madaxweynaha farmaajo waxaa ka muuqata cabsi badan baa ka muuqata markaad aragtid qaabka u hadlayo iyo siduu wax u wado waxaana deegaanada iyo dhulka beelaha daarood u fiicnaan lahaa in madaxweyne hawiye la keeno meesha oo weliba la iska daayo nimanka dambe daaradoo lasoo wado oo madaxweynaha hawiye la keeno waayo madaxweynaha hawiye wuxuu meel mari karaa gobolada sool sanaag iyo cayn laakiin madaxweyne daarood oo puntland iyo somaliland xidhiir la samaynaya waxba ma meel mari karo talabaada meesha ku jirta waxa weeye farmaajo wuxuu tolkii iyo dadkii taageerayba uu kaga cararay waxa weeye
waa nin deegaan iyo dhul aanu u dhalan maamulaya is aaminsiiyeyna inuu dadka dhulka iyo deegaanka ula joogo raalli geliyo iyo beelaha kale ee direed iyo raxanweyn inuu raalli geliyo oo kursiga kusii joogi karo uuna aaminsan yahay beesha daarood hadday mucaarado in aanay waxba soo kordhinayn oo ay oranayo daarooda iyo waa daaroodo ay hawsha halkaa ku dhimaysay laakiin madaxweyne farmaajo ma oga dowladda soomaaliya iyo guud ahaanba waddanka soomaaliya awoodda iyo mataqaanaa dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ay wax ku kala socdaanba inay beelaha daarood ay wadaan waana waxyaabaha madaxweynaha farmaajo uu ku fashilmay oo ilaa maanta uu meel uu wadankii gaarsiiyey iyo meel uu ka kaxeeyay aan la garanayn 2020 baa la gelayaa markaasuu wuxuu ku leeyahay doorasho cod iyo qof aa dhacaysa doorasho qof iyo cod waxay 4 sano ka hor inuu ka shaqeeyo hadda iyadoo saa tahay dadka deegaanada Soomaaliya ay indhala'aan ku taageereen amalkii iyo wixii ay siiyeen kartidii banaa ay siiyeen iyo dhiirigelintii iyo kalsoonidii banaa ay siiyeen wuxuu ugu abaalguday inuu deegaankoodii iyo dhulkoodii dafaro waxay wuxuu garan waayay warbal jawaab wax kasta ku jawaabo inaad dadka deegaanka qancisida u jawaabto baa quruxda maalan laakiin wuxuu yidhi markay gabadhu weydiisay waan wada maqlay marka waxa ka waa caqabada farmaajo haysata waa baqdin saan anigu ka arkay anigu wax kale ku salayn karaa ma jirto iyo talabaad oo ah inaanu meel aanu mataqaanaa aanu xukumi karin loo dhiibay xukunkiina uu garan waayay qaabka u maareyn lahaa markii uu fashilmayna wuxuu ku hadla garan waayay sababaha ka mid ah dhul iyo deegaan loo dhaariyo loo doortay oo ka jawaabi waayay adduunka lama arag intaa siyaasadda iyo madaxda iyo dhulka waxa ka dhaca way loo socdaan marka madaxweynaha farmaajo hadda muhiimad weyn ima sameynayso inaan ka sii hadlo laakiin waxay sameynaysaa waayahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal aada u muhiima goboladan hadda aanu ka hadlayno sool sanaag iyo cayn dadka badanaa ayaga markaanu hadda fiirino waxay eedeeyaan dadka ku matala siyaasadda dhinac walba hadday noqotaba gaar ahaan xildhibaanada waxaad og tahay hadda annaga waxaan nahay labadeeda nin weriye ah iyo shaksi caadiya oo iska wareysanaya xildhibaanaa jiray jooga xamar oo marka uu hadalka yidhaahdo uu meelna ku sheegi waa yidhahdaa su-aashaa jawaab uma hayo ka jawaabi lahaaba sababtoo taa iyaga xildhibaanada ku fadhiya arrinta xildhibaanada hadda waad og tahay doorashaa soo socota xildhibaano cusub baa la rabaa inay ka yimaadaan soomaaliya oo idil deegaankaasna waxaa laga rabaa xildhibaan in laga doorto maxaad oran lahayd dadka shacabka ee ku dhegeysanaya inay ka fekeraan cidda ku matalaysa golaha shacabka horta arrinta xildhibaanada dee adna deegaanka dhulka waa u warhaysaa nin aqoon-yahana oo intaa uu sane kasoo shaqeynayay masiirka dadkan iyo quruxdooda iyo wanaagooda waa tahay oo dee waxaan hadda kaagaba sheegaaba dee ma garanayo laakiin haddaan istiimiyo xaaladda ay noqonayso marka wax la doorto sidaynu ognahayba dadka shacabka waxba ma doortaan waxna gacantoodu ma jiraan odayaal baa waxay geystaan wiilashay adeerka iyo u yihiin iyo kuwa u yihiin abtiyada iyo kuwa gabdhaha ka qabaa weli maan arag qof shaksi karti iyo mataqaana dadnimo leh ama dadnimo SSC ka muuqato oo meesha la geeyo badanaa waxa la geeyo waa qof ku yimi ehliyad iyo qaab uu qofka mataqaana garaadka ku xiga ama nabadoonka qoyska uu soo mataqaana usoo saxay marka dee taas waxaa ma bedelayso haddaan shacabku ku naano dadka ka fiirsada dee waxay gacanta ugu jiraan maba jiraan waxna ma doortaan awoodna kuma leh ninka meesha yimaadana waa nin odaygan miyiga hadduu doono ka keensaday nabadoonka ama garaadka ah oo uu meesha geeyey meesha waayahay laakiin doorashadan waxaa la yidhi 100 iyo dheeraad ayaa xulaysa waa dad badan laaluush saasana lalama kala gaaro hadduusan qofka bilyaneer ahayn waxaa ku jira golaha dhaqanka qayb buu ka yahay laakiin waxaa ku jira ururada rayidkana way ku jiraan marka miidan kula ahayn adiga iyo shacabka kale ee deegaanaadkooda inaad laga tashto hadba qofka ku matalayo oo shuruudo loo sameeyo shuruudahooduna dabcan ka mid noqon karta inuu dadkan siyaasad ahaan uu ka taliyo deegaanka arrimaheeda taas waa ficnaan lahayd laakiin dadka saa kuu sheegay waxba gacanta uguma jiro waayo 135 kan aad sheegtay way kama imanayaan soo liisanaya cayngalo way ka imanayaan ma garata waa gartay mana arki doonta waxaan hadda aan qarinaynaa ma jirto 135 kan garo waa lagu ansixinayaa mana imanayaan mana codeynayaan waxaan haddaba anigu ogahay say u dhici doonto dee adigu nin walayaa tahay waxba hadda kama raaloon karti laakiin anigu waxba qarin maayo runtaa sheegaya baarlamaanka puntland baa nabadoonku markuu soo saxeexo lasoo marinaya waa lasoo ansixinaya qof doortay iyo meel lagu doortayna ma jirayso dadka deegaanada siyaasiyiinta u matala soo liisanaad yahayna dhammaanbu waa dad wada fashilmay ama puntland ha joogan ama somaliland ha joogan ama koonfurta soomaaliya ka shaqeeyeen marka anigu waxaan u sheegi lahaa dadka shacabka gobolada soo liisanaad iyo cayn
qurbay joogtu ka mid tahay dal joogtu ka mid tahay dadka kale ee dhulka wadankii u dhow East Africa jooga ay ka mid yihiin in bal abaabul dambe la sameeyo oo bal 2020 baa la maraya dadkana waa dad Soomaalida ugu taariikhda badnaa uguna mataqaana awoodda badnaa marka 2020 in masiirkoodii laga hadlo oo reero ka mid ah deegaanada la dego oo dad mataqaana hadda taariikh cusub samaysanaya ay awooddoodii sheegtaan oo ay kala mataqaana kala sheegtaan oo dhulkoodii deegaanadoodii ay ka hadhaan dhulka kale deegaanada kale oo ay mataqaana ilaa maanta dagaal iyo colaad ka taagan yahay oo aan horumar jirin oo niman laga keenay gobollo kale oo waxay yihiin aan la garanayn oo wadankii dhulkii nabad guurinaya oo mataqaana qashin iyo xashiish keenaya lagu soo daadiyey waxa u baahan anigu waxaan oran lahaa dadku waxay u baahan yihiin uma baahna inay waxaan federaalka waxaan isku mashquuliyaan waxay u baahan yihiin bal inay dhalinyaradu weliba maanta dhalinyaro fiican ilaa 30,000 oo dhalinyaro oo SSC baa la heli karaa oo wax bedeli karta marka anigu waxaan oran lahaa dadka SSC bal wixii hore iyo siyaasiyiintii hore waa ku fashilanay garaadadii iyo wixii hore ay wadeen waa ku fashilanay warbal dhalinyarada sanadkan ha kacdo meel kasta iskaga timaado shir dhalinyarada SSC iyo dadka ilaa 40 wixii ka hooseeya ay iskugu yimaado kabacdi masiirkeena iyo aayihina aynu ka tashano siyaasi dambe oo dariiska u doonanaya caruurtiisa oo maamul reerood aadiyo ku raali gelinayana aynu ka tashano kabacdina wuxuun aynu isku afgarano inaga haddii Soomaaliya laga baxay haddii lagu jirayo horta inaga waa wax inaga masiirkeena ku saabsan oo inaga taa ka tashan doona laakiin horta waxaan Soomaaliya kaga baxno kaga tagno uma wejeeno meeshii reer baa qabsaday reerkiina mataqaana inaga waxba la qaybsan baan waxba u golayno wixii soo dhan wada qaatay marka reerkaasuna waa reer cugdadi ku jirto oo dadka deegaanada SSC ah cugdad badan ka qaba dad aan wax la qaybsan karno wax isku darsan karno maaha maamulkii aynu 1998 ku biirnay ee Puntland dhulkeeni iyo deegaankeeni uu sabqa u bixiyay oo maalinba qayb ka mid ah uu bixiyaa oo ka carara waa ogtahay haddii dhulbaanta dhul laga qabsanayo Kalshaale iyo Hagowgana iyo Meegaagle bay wax isku farasaareen jabhadda qabiilada Ciise iyo Samaro soo kaxaysatay wixii ka raacay waa ogeyd dhulkii deegaankiina wali waa kuwa buuhooda carankii ka taagan yahay xorna waa waxay doonaan ka qabsada qolada nugaashaana dulinimada saaray ilaahay dulinimada ka qaado waliba nugaashu way taantahay dhulkan xagga nugaasha soo xiga Majeerteeniya waa dhul nabdoon oo dadka deegaanka lahaa furaha ugu jiray waa inta la ascaanood iyo inta ka shaqeeyay caday wixii loo gaaro tukarad marka dadka waxaan iyagana ugu baaqlaa war bal xaalad xun baa lagu jiray bal in la isku yimaado oo la is aruuriyo oo bal talad u baahanta la helo oo dhalinyaro oo midaysan la helo kabacdina xaaladda wixii laga gudbi lahaa 2020 heerka marayna 2025 iyo 2030 kana xaalad ka xun baynu ku jirayna marka bal in la isku yimaado war umada kale qabiilka waa ku faantaa waana isku raacday inaga maxaa inoo diiday oo qabiilkeena iyo dadkeena iyo sharafteena uga cararna waa dhibaato moogta aad baad intaan dadka deegaanada u fari lahaa waxa weeye warbal shir dhalinyaraha la isku yimaado arintan Axmed inaad ka shaqeyso waan jeclaan lahaa oo aad balde baraarujinta TV-ga ku soo dartid aan TV-gana hadda arkay TV-ga hadda la fayna oo Darwish TV-na hadda arkay insha Allah waa gaarsiinaya intaan gaarsiin karo balli oo arintan laga shaqeeyo aad baan ku salaamaya khayr badanna waa inay rajaynayaan dhammaan SSC iyo Soomaalida guud waa aad baad u mahadsantahay walaal aad baad u mahadsantahay ninka odayga ah Jarmalka naga soo wacayayna intaas ayaan kaga gudbaynaa qofkii kale oo raba inuu soo waco haddii ilaahay idmo waa na soo wici karaa insha allah oo raba inuu barnaamijkan nagala qayb qaato afrikada ayaan markaas siinaynaa nin odayo asagana assalaamu calaykum وعليكم السلام xilligaagii baa la soo gaaray waa kuugu soo wareejiyey barnaamijka waa adigii dhowr marna soo wacay kusoo dhawow barnaamijka dhinaca live streamingka facebooka inaad kala socotana waa u malaynaya aragtidaada waxaan ka hadlaynaa barnaamijkan dowladdan hadda joogta maxamed cabdullaahi farmaajo uu xukunkeeda hayo iyo kuwii ka horreeyaba xasan sheekh ha ahaada ninkii la oran jiray shariifka ilaa cabdulaahi yuusuf maxaa keenay nimanka madaxda koonfur ka yimaada in ayan arrimaha waqooyiga Soomaaliya ayan xil iska saarin aragtidaada ku soo dhaw gaar ahaan madaxweynahan hadda jooga oo dadka qaarkood oo barnaamijkan soo wacay u arka in uu u sadburiyay xaqiiqdii gobolada waqooyiga ee qaybta hadda Soomaaliland ay gacanta ku hayso aragtidaada barnaamijka ku soo dhaw
وادوهي أحمدو مركو هوري والسلام يا هذه أحمد الله هي برشاد أنت كده جيسان السه مرعي روح على محمد حسن حاج قربية وحنكون على كورية وحن شباب مسبيق أرجتنا هدي أن كسر دوادو أن قدر قالوا يجي مثلا SSC مركو تبغوي لقى حليو يدك كي وقوي لحنا كي حرمنا ورقات تبغى وقوي صفاها وش إنك ممكن نبينا البيت الحمام وبشرة وقارة ويجوا يجاروا ليهم أفراد دارها وتجانو شخصيات وبعنتها وتجان لا يتوانكي أو قراد عبد القادر قامر إلى يوم نحرسته لكن بينهم خلاص ما يستمي ما يهين شبهات بايهاي شبهات دبا وحصنا شتي شبهات دبا إلا هذا ما حسيت الشمال الآن لكن دي جامد SSC يوم ما مركز الدولة جد حد عضي deegaamadu bay joogeen deegaamadu bay joogeen meel kale ma aadin markii dambana Puntland baa la aado wax lagu darsanay IT anu horta waxaan oran karayaa balkan Soomaaliya laga badaayo horta anu soo noqday horta Puntland waa ku qasaarnayba oo qasaaraha ugu weyn iyo dhibaatada ugu weyn ina gaarsiisay 80 ilaa hadda waa tan ka soo kaban laana taasi waa ta markaan u dhacdo tan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo محمد عبد الله فرماتشو دي waxa weeye horta taageerada ugu baneey bulumiyay ee deegaamada SSC ee uu kalaha maanta waxaan aaminsan inuu soo noqonayn waayo isaga DFkiis waxa weeye kulliye taageeradiis iyo dad badan oo kala Soomaaliya inta markaan ka imaado sabursiga siyaasadda deegaamadan Puntland baa waxa la yiraahdaa siyaasadahan dhaqaalaha على Soomaaliland baladi soo maraya bali wax soo gala deegaamada ma jiraan aniga waxa yalaata waxa leeyahay hal walba shilalka istigto baa lagu qala inaga halkaas dhignay ee maanta cid kale wax ka sheegno ama araanano ee bay nagu tahay qof kumarkiisu waa gartay codka ka yara go'aya qofku isagu markuu dambiilaya sorry qofku markuu isagu dambiile yahay inuu cid kale dambi u raadiyo ma naga dambiila hadaynu dadka SSC hadaynu la gaarahan kuwa siyaasadda loo mata waxaan hadalka ku ogolaanaya sida aad ogtahay shirar farab dadkani ilaa iyo xilliga aad sheegaysay horta waxay hortaagnaayeen nidaamkan kala go'a waa hortaagnaayeen sida aad adigu ogtahayba isimo badan oo deegaan ku ahaa magaalada Laascaanood arrimaha siyaasadda ay uga maqan yihiin dadka shacabka ahna muddo fara badan waxa iyadoo ayanba jirinba xataa dawlad Soomaaliyeed meel lagu sheego oo Soomaaliya iyo koonfurteeda oo dhanba dagaal ka socday ayay waxay aaminsanaayeen Soomaaliya in la helo sababta ay Puntland ugu biirayeen oo ama qodobka kaliya ay ku diideen maamulka waqooyi wuxuu ahaa kala go'a sida aan warka ku hayo marka su'aasha isweydiinta mudan baa waxay tahay dadka iyagu xiliyadii SSC waxa xasuusataa madaxdii SSC waxay wada tageen koonfur xilligii Shariifka xagla toosiye u tagay waxa la xasuustaa xilligii SSC garaadka iyo inay wada tagayeen xamar xilligii Xasan Sheekh Taleex golihii lagu sameeyay waa tii xamar dawladda ula tageen Xasan Sheekh oo diiday ama uu siyaasadda diiday marka ma oran kartaa shacabku iyagu dawladnimo Soomaaliyeed bay rabaan siyaasiyiintu laakiin sababta kaliftay nimanka aan ku tiriyay oo dhan inay ka caroodaan siyaasadda micni koonfureed xaqiiqdii waxay ogaadeen madaxweynayaashani inay qaarna qabyaaladiistayaal yihiin kuwa hadda joogana micni ay lahayn kartideedii in arrimaha waqooyiga faraha la soo galaan lagu xaliyaan laakiin shacabku iyo dadka deegaankaba ay isku raacsan yihiin inay Soomaaliya marka ma isleedahay waxa hakrashada ka imanayso waa dawlad Soomaaliyeed horta Axmed oo laba arrimood labadu waa jiraan midna waa xaggeena midna waa xagga dawladda dhexe federaalka ah ee fadhigooda Muqdisho yahay marka hore waa inagu dambigeena qaadanaa inuu dadka kale doodooda sida inuu dadka kale doodoodana aynu wax ugu darsan karno eedda aynu saaraynana ay noqonayso mid midad ah oo ku cad laakiin haddii inagu aanu iska dhigno xala dhalay oo aynan eedeena qaadanin tusaale ahaan su'aalaan ku weydiiyo xilligii Cali Khaliif Galeyd
waad og tahay xamar buu tegey waad og tahay inuu la kaambeen gareeyey xasan sheekh waxa uu yani saxaafadda anigu naftigayga aan joogay ama recordkeedaan hayaa inuu ka shaqeeyey ilaa iyo 40 cod xasan sheekh inuu helo inuu professor cali khaliif galeed uu ka shaqeeyey isagoo marka rabay in isagana siyaasad ahaan waxa uu watay maamuladan uu u aqoonsado xasanna qaab qabyaaladaysan uu uga diiday arrimihii la rabay ama mas-uuliyaddiisa ay ahayd isagoo garab ka saaray somaliland taasina marka ay kaliftayba dee inuu ka caroodo marka siyaasaddii marka soomaaliya midnimadeeda ma dadka shacabkoo degaankay saaran tahay keliya iyo siyaasiyiintooda mise nimankan xamar madaxda ka abay iyagu naftigooda mas-uuliyad bay ku leeyihiin xasan sheekh miyaanan ahay ama farmaajo inuu tago gobolada waqooyiga soomaaliya ilaan soomaaliya ka mid yihiin iyagu markaa eedu waxaan u malaynayaa ka xukuumad ahaan ayaa meeshan ka maqan shacabkan waxay leeyihiin soomaaliya aanu ka midnahay laakiin meeday dowladdii ay ka mid ahaayeen أحمد الله صح ورتا ما قال وكون قرابية وريات هاي ورتا أنا حاسس الشيخ واحد يبر على خليفة ما أقول كلنا ما كنت مركز الله قاعد على خليفة يبر الشغلة ما أدري يستقول حاسس الشيخ نك الله يرضى هاي هاي برشلونة على خليفة قصك يقول يا حس على خليفة قصك يقول حاسس شخفرت كوفي وقاه نك الله دورت استجيب الله دورتي استجيب الصواب حي هم وين بان أقام لي حاسس الشيخ أكرش وجهته ولا من حوق اللي بعجزته لكن أن قدر ما يتوقع مركز الدولة اللي حب ربوط يدخل قبائل بوها خير ولود ديان كيسيب الآن قلت إنه حقين الآن إنه ديان كيني من وحنا بوه هذا الله سبحانه بوه عامل صلاح رجابه حدود ندير أرى عبدية ندير كل حدادا أرفدي ودود كلباي أدير يقول جوبس تيجان كيني بونم لكن مين نال هجان طبع السياسي ونهجا وحين هذا وضيال جراد وهذا قاربه وين جراد عبد الوهري الله يرحم لكن نكاش واحد بدنا بالسوري لي الشيء كنا يتوون كيبرو أنا سيدا تاريخ كل سووا هذا الشيء نظريات بوا أنت تكبرها إيه ولا تجيب قوية إنه نقول شر نظريات ولا سكون يرجليو وسيت تمبرير ما من وصلش لكن ما كنت أقول تاني مش ممكن أقول حضرتك مركز من بدنا بينو قوي مركز نفس سياسية وحبوا ميسامية ودنتو سجار كابو إيرانيا دنتو سجار كابو إيرانيا مركو دنتو سجار كوام حي بدنا نبو إيجايا سندال نبو إيجايا الناس يلوونو كاتو لوونو كراكيب سلا مركز ورت شعبك يوم ده شعبك سياسي يوم ده اسمك يوم ده سياسي اللي بقى ولا بس سياسي أنا مركز عليه كل سياسي طبقة إنه نقاني أما إنه قريلي يضبط الحلقة بسني أما وحكي شو قولي إلا حد من الله وكل يوم واحد هذا بقى إن على الكورة إنا قمدي فرطول كل كوري وقت أنت يكون والبود هذا كون والله حول من نور كون أبونا مرتاجنا بوتلان هذا أحمد الله وأنا قلت بوتلان ماشي ليه يعني سياسي بي لكن حوجات طبعا واحد ما لنا واحد دقيقة 60 في الورث إيتي الله كلا وين تكون رأسي وان فدي تي في أساس وفدي والله ما يكون يصدق الوابوساش وكهلا يا مشارع وكهلا يا هرمر وكهلا يا ديقو وحول الجروة قردو قال كعيو بوساش هذا بدلن بالله هواي ما ليس واحد وقاد إننا بدلن وحبك كلهن وهي هذا وحكولنا كيف هي سووا كشيء لهم مشاريع deegaan kan la marinayo deegaamada kale baayna ka muuqan lahayd la gaarsiin lahaa wax aqligu uu shaqeeyo weeyo maalintaas anigu waa shakhsiya intii ka dambeysay dibadda anigu ma taageersanayn waayahay hadda anu hadleen uga soo waayahay ka waran say u arag waxa yimid farmaajinta soo eeganaya waa siyaasi dhinacay ugu badiso boos xuduubaya kun marka laga hadlayo Soomaali dab ah oo siyaasi oo waxay kare Soomaali mehel waxa la helay dad dantooda eeganay shakhsi oo dan guud ba eegan iyo dan qaran iyo kuwana Soomaali jecel iyo kuwana waxay degan yihiin israashiyadii ay hadii idigu aysana kuwada go'ay lahaayeen hadii islaas kuwa Israa'iil lahaayeen wadul baanta wuxuu digay dhunta halka waxa afka soo gala xaguu mara gurigu mara xaguu gudba caloosh وكان رقمت هذه هالكلام اللي بقوله ده وحنا ملقيش أول شيء وحنا متجيا
siyaasiga saa u garan lahaa oo odhan lahaa baalisiga nimankaas dhinacay raacaan miisaanka u dhacaysa lama hayo hadday koonfur raacaan iyo hadday waqooyi galbeed raacaan lama hayo dhulbaanta lama gabo jaaniskan iyo meesha uu degan yahay istiraatiijiyada kama faa'iidaysan iyo weydii waxaad weydiinaysaa kalma waya hal su-aal aan rabaa inaan ku weydiiyo muran socday doorashooyinkii kadib waxaa la soo saaray warqad wareegta ah warqaddaa waxaa ku qoran in maamul goboleed walbaba tusaale ahaan 2 magaalo oo ka mid ah lagu qabto doorashooyinka waxaana jira xildhibaano adigu hadda sidaa sheegtay waxaan ogaaday baa tiri anoo boosaaso joogo t v daawanaya inaanan waxba aanan ku lahayn kadib markaan arkay nimankaas siday wax u qaybinayaan oo laga hadlayo keliya gobolada ay degaan beelaha kale laga hadlayo marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal maxaa dadka aad kaga gudboon arrimaha xildhibaanada iyo ciday masiirkooda u dhiibanayaan hadday xildhibaan tahay ama hadday madaxweyne tahay waxaana maqlo oo nasiib darro ah muranadii hadda dowladda u dhexeeyey oo deni uu soo jeedinaya waxaa ka mid ah inaan lagu soo faragelin dhammaan xildhibaanada ka imanaya beelaha degan ama hartiga laisku yidhahdo ama puntland ha noqdaan see u aragtaa arrinta xildhibaanada iyo mustaqbalka dadkan waayo hadda may maqashaa waxaan rabaa arrinta xildhibaanada ee laysku haysto oo qof walba uu rabo inuu qaato xildhibaankaaga si uu ugu noqdo madaxweyne ama ra-iisul wasaare aragtidaada horta aragtida waxay tiraahdeeno anigu dili markuu garowa joogay waan ka hadlay baadka Facebook lam kusoo waxaan ku dili oo shirka uu sameeyay ma diidan wuxuu u hamiyay digleeyahay xubnaha dawladda xubnaha deegaamada SSC ka soo baxay ee ku soo baxay doorasho deegaano wuxuu doonay in gacanta loogu rido sidii bay noqotay gacanta loogu rido waa ugu jirta kuwii ku horeeyay isagana ee gaas lahaay froolo ahaana waayo froolo horta waaba waxbaaba lala qaybsaday markii odayaashii waaba dadaal xilligaa joogay odayaashii cali qalif qalif iyo garaa jaamac garaa cali iyo garaa cali buraale iyo waas cabdilaahi iyo odayaashii waaba dadaal xilliga odayaashii marka xabad garanaysa wixii waa tii loo qaybay laakiin tii gaas iyo tii kale ee waxa weeye hadda kan iyo in sidii uun bay in gacanta lagu hadana gacanta ay ku dhacdo waa u jirta marka anigu waxaan oran lahaa kuwii hore hadda mataliyay ugu weynaa midka jingle ugu weynaana deegaamada waxa ma tarin waxba uma qaban xataa hal maalin inay yimaadaan deegaankooda booqdaan ama hadlaan ay hadlaan xigta raganimay ahaan xataa ma muuqdaan lama arko iyo xataa hadlay lama arko anigu hadda way isweydiinaya waxaan waruhuma gashaantiba waxaan ka hadlay gashaantiyadii horaan ka hadlaya ama gabadh badde yani xishood iyo ama saanta intaa le waynahaan waana xeer deegaankii aad ka soo jeeday ee aad ka soo baxday ama garowa ka soo bax ama gaalka ka soo bax horta lagu kala qaybsanay war maxay xataa la hadki waay waan leeyahay ma garad anigu waan ka soo horjeedaa waxaan leeyahay axmed ma maqlaysaa si wanaagsan axmed ma maqlaysaa si wanaagsan waa ku maqlaa anigu waxaan oon lahaa xaalad bilaad intifaaq waxaan oon lahaa dadka deegaanka degan gobolada SSC ee dhulbahantiga warsingili iyo fukushima iyo kaskiiqaba iyo ee dhulbahantiga warsingili ugu madaxay waaweyn kacdoon intifaaqa hala sanay oo laga soo horjeedo sharci darrada ka socota muqdisho ee Puntland wado ee muqdisho wado ee aan lagu kala xishoonay ee la doonayo 30 sano ilaa 2000 waa 2000 wada xataa laga soo qaday cabdiqaad ilaa 2000 iyo ilaa hadda dulmiga ka socda dadka lagu hayo haka ha mudaharaada haka ha hadle oo waliba yaa la sugay kuwa muqdisho jooga yaa la sugay ee waliba soo taag inay mar kale soo noqdaan ee jingle ugu weyn yaa la sugay arrinta hala sameeyo aniga saas igu muuqata dadka la sugi ma doon dalada ka tashada adduunka waxa la dumarka baa ku diiray lagama hado gabadha hadda jecaash oo sawirri waan ku diiray lagama hado waa lagu soo celceliyaa waa aakhir waxa la taabay liyo waa sax annagu ku jecel si jecel annagu ku jecel walaalaha marka siyaasadda iyo maamul dhisida iyo ismaashaha iyo waxba laga fashilmay sida lagama hado ma garan anigu waxaan soo jeedin dadku si yimaadaan tashadaan oo dalada ka tashadaan laakiin laga horeyso intifaaqada hadda intifaaqa laga horeysiyo mudaharaad oo waa la xishood oo waxaan durmiga meesha ka socda waxaan xishood hadda ma waa duqliin waxa dadka la fadhiya aw saa soo jeedin aad baad u mahadsantahay adaamuda waa ku salaamaya adiga iyo dhageystayaasha iyo TV-gaaga iyo dadaalka aad wada inaad wada kaaga mahad celinaya haddaan heli lahayn 10 nin oo dhulbaanta oo deegaanada ka soo jeeda oo sida aad u hadasho
ee aad barnaamijka usoo gudbiso ee aad dadaalaysa u dadaal wax badan baa noo qabsooma. Salaamu calaykum. aad baad u mahadsan tahay garbiye oo naga soo wacaya Mozambique insha Allah waxaan rajaynaynaa telefishinka rasmiga ah markuu hawada soo galo October inaad si fiican ula socon doontaan. aad baad u mahadsantahay walaal. السلام عليكم. waayahay qadka telefoonku waa idiin furan yahay insha Allah bal waxaan siinayaa dhowr qof oo igu soo celiyay ayaan siinayaa haddii ilaahay idmo inta aanan barnaamijka aanan gabagabayn haddii ilaahay idmo insha Allah maalin walba marka ay saacadda ku aadan tahay 1 ayaan ka soo geli doonaa page-ka cusub oo aan u sameynay TV-ga haddii ilaahay idmo guutaale ku soo dhawow barnaamij live ayaanu ku jirnaa siyaasadda waxaan ka hadlaynaa dawladda federaalka gaar ahaan madaxweynaha hadda jooga xukunka iyo arrimaha waqooyiga iyo dhaliilaha badan dabcan oo ay dadku ka sheeganayaan gaar ahaan dadka iyo gobolada Sool Sanaaga Cayna iyagu naftigooda gobolada waqooyiga ku soo dhawo barnaamijka. ودوهي وانا اذا السلام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. عدك كورنا ugu yara qaad ku soo dhawo barnaamijka. وإذا وضع السلام يا dadka ku xiran ama ku taxan bartan dhammaantiin waa idin wada salaamaya intaad leeftihiin بعد الصلاة si gaara waxaan u salaamaya Axmed oo anigan ku salaamaya iyo telefishinka Darwish salaam Allah oo aan sugayno aan in muddaabaan u fadhino inuu hawada soo galo kaasoo aan aaminsanahay inuu ka shaqayn doono danaha dadka iyo deegaanka reer SSC midnimadooda maxaa la yiraahdaa toosintooda sixidooda haddii ay maydmaayo dib u kabidooda intaba inuu ka shaqayn doono aan aaminsanahay inuu hawada isaguna soo geli doono waan rajaynaya insha Allah markaan dib ugu soo laabto barnaamijka ama su-aasha aad hadda i weydiisay oo aan arkayo inay ka baxaysay live-ka hadda dad badan oo Soomaaliyeedna ay ku jireen oo ay kaba jawaabayeen anigu waxaan rabaa inaan siyaasadda Soomaaliya ma rabo inaan dhex dabaasho oo maxaa la yiraahdaa de waa fasalu ahla dhikra in kuntum la ta'lamun Soomaalidu waxay isku tilmaameen inay wada siyaasiyiin laakiin anigu siyaasi mihi laakiin waxaan ahay qof wax oo dorosa oo de garaadkiisuna uu siiyay inuu wax doroso aqligiisuna uu siiyay inuu wax fiiriyo wixii uu markaa uu garan karo ee markaa uu geli karo maaragtay samaanteedana uu markaa taxliiqiyo taas waxaan markaa rabaa inaan uga sii gudbo deegaanada reer SSC waxyaalo badan baa jira oo Soomaalida iskaga khaldan dhulkaas reer SSC waxay ka mid ahaayeen dhulka horta Somaliland magaca la yiraahdo Somaliland ilaa Kismaayo Raaskambooni la raafacay waa Somaliland magaca horta in laga digo maaha marka waxa weeyaan Somaliland protectorate Somaliland British Italian maxaa la yiraahdaa Italian Somaliland iyo British Somaliland labadaas koonfurta iyo waqooyigu kala ahaayeen marka taa laga soo tago waqooyigu wuxuu ahaa dadka Soomaalida waxaad moodaa inaan hada waxa la dhagaxba la taabasho iyo tuujo kii tabkiisa waqooyigu wuxuu ahaa British Somaliland laakiin wuu sii kala ahaa dad baa ahaa protectorate oo heshiis la galay Ingiriiska dad baa diiday inay heshiis la galaan oo ka soo horjeestay oo la dagaalamay 20 sano la dagaalamay kuwa waxa la ahaa British occupied waxaan arkay niman aqoon iyo siyaasad sheeganaya labadaba oo saxaafadda iyo telefishinada la soo taagan protectorate buu dhulku ahaa waa been meel ay ku taalana ma jirto nimanka SSC leeyahay dhulka ay deganayaan ama daraawish iyo Ingiriis weligood wax heshiis oo dhex maray oo xabad joojin ahayn ma dhicin ninkii soo hela waa nin aniga iga badiya taariikhda taa markaa ka gudbo dadka waqooyiga degan majority reerka mooyaan inta kale protectorate bay ahaayeen oo macnaheedu protectorate waa maxmiyad bay u ahaayeen Ingiriiska isaga protect gareynayay oo ay hoos yimaanay laakiin reerkaasi wuu la dagaalamay waana laga adkaaday 20 sanadood buu dagaalamay waana laga adkaaday waxay u dagaalamayeen waxay xorriyadda iyo maaragtay iyo dhulka Soomaaliyeed bay u dagaalamayeen iyo diintooda u dagaalamayeen inaan diintoodana laga bedelin dhulkoodana aan lagu xukumin ay iyagu iskood isu xukumaan oo iyagu ay dhulkooda ku noolaadaan taas rabaa inaan ugu gudbo deegaanada tan marka aan u soo laabto iyo dawladdan hadda ka jirta Soomaaliya dawladda Soomaaliya oo dhan kama jirto dabcan waxay ka jirtaa Southern Soomaaliya ka jirta
koonfurta soomaaliya dowladda ku jirta waayo prime ministerku waa reer koonfureed madaxweynuhuna waa reer koonfureed marka waxyaalo badan baa dadka iskaga qasban 4.5 dadka waa lagu khalday taasaan iyana uga sii gudbayaa hala ogaada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare labaduba inay niman reer koonfureed ay yihiin oo aan power sharingkii loo baahnaa ama power sharingkii saxda ahaan wax lagu qaybsanin aan usoo laabto gobolada SSC iyo hadallada hadda taagan ama issuega hadda jira shacbigaas goboladaas ay ka cabanayaan habeen dhaweed waxaan arkayay gabadh samafal ah oo samafalad ah oo Sahra Farid la yiraahdo Dr. Sahra Farid khayrallaasiyo oo su'aal weydiisay farmaajo madaxweynaha Soomaaliya su-aashay weydiisay madaxweynuhu waxa weeye wuxuu ku bedeshay inuu yidhaahdo raalli baad iga ahaanaysaa taas jawaab uma hayo qof mas-uul ah oo madax ah oo ummaddan u dhaartay oo degaan dhulkii uu madaxda u ahaa uu u dhaartay ka mid ah su-aal laga weydiiyey oo yii raalli iga ahow jawaab uma haye waa markii ugu horreysay aan aragno ama aanu maqal taariikhdana laguma sheegin lamana maqlin bad iska daayay cawaanta maxaa la yidhaahdaa latin america degan iyo kuwa degan maxaa la yidhahdaa asia qaybo ka mid a mas-uuliyiintoodu waxyaalahaas oo kale kuma hadlaan nin muslima oo soomaaliya oo aqoon aan isleeyahay saaxiibku u yahay inuu qaabkaa u hadlo runtii waxay ahayd arrin aada dadka ka nixisay laakiin fallaadhi baa la gilgilasho kaagama hadlay soomaalida ku maamaada marka waxaan leeyahay dadka reer SSC waxba ha ka nixina farmaajo waxba inama yeelin farmaajo waxa laale wuxuu inoo geystay iyo wuxuu ina yeela ma jirto waxaynu inagu is yeellay baa meesha yaalla sababta oo ah meesha aynu inagu isdhignay ayaa qof walba oo soomaaliya inagu xisaabinay meesha aynu inagu naallow inaga ayaa isdhignay ma jirto in gacmo kale intay inoo yimaadeen ay ina dhigeen somaliland rag baa inoo jooga ayagaa dhibaatada puntland qaar baa jooga habaar bay ku jooga iyo qurri iyo kudaafad bay ku jooga dadkii iyo shacabkii iyo dhulkii waa la kala qaybiyey kuwa puntland way sheeganayaan kuwa somaliland waa sheeganaya marka waxa weye isma ayana joogeen meesha odayaasha dhaqankuna qaybina somaliland bay jeefka ugu jirtaa qaybina puntland bay jeefka ugu jirtaa dadka dhulkaa iyo deegaanadaa degan ma laha dad matala oo masiirkooda si dhab ah oo rasmiya ugu hadli kara masiirkooda ugu raadin kara masiirkooda ugu doodi kara oo aan ka ahayn dhalinyarada iyo dadku inay midoobaan oo ay gartaan inaan cidina u maqnayn xamarna cidi u joogin garowana cidi u joogin hargeysana cidi u joogin hadday sidan kusii jiraan kurjish bay noqonayaan ama sida falastiin bay dhagax tuurayaan maxaa sababay in waktigan xaadirka garaqtaangiyaal lagu soo daldalo oo laga keeno hargeysa laga keeno maxaa sababay maxay tahay waxa sababay meeshaas oo kama iman karto in dhiig qulqulo oo soomaaliya isku baabaada soomaaliya waxa la raadinaya waxaan anigu leeyahay reerisi la uma qodnaa cidina uma maqna yaynaan cidna eersanin innagu aan dib isugu laabano innagu aynu is eersano innagu aynu garnaqsano innagu aynu wada hadlo innagu aynu wada fadhiisano innagu aynu runta isfaraaraxsiino oo xaqiiqada isu sheegno innagaa dhulkeeni dayacnay innagaa dadkeeni dayacnay innagaa kala qaybsan afar baa usoo gelaya fila soomaaliya soo gelaya waxbay u sheegayaan afar kale kasoo dabagelaya waa beentooda odhanaya innagaa waxaan nahay dad aan dintoodu dhinacna u xirin waan caqlina lahayn cilmina lahayn doonta iyo ka hadlo caloosha keliya guutaale waa mahadsan tahay laakiin xoogaa waa kaaga yar aragti duwanahay sida aad adiguba leedahay lafaha geela iyagaa laisku jebiyaa dadkan iyagaa laisku jebiyey argumentiga ama dooda ah idinkaa kala qaybsan hadalkaasi fair ma aha waddanka waxaa lagu kala baxaa sideedaba dad walba waxaa la eegaa majority-ga iyo minority-ga tusaale cali khaliif marka uu tegayo ninka ugu aqoonta badan buu ahaa ugu cilmiga iyo darajada badan ma jirin mujtamac raacay fikirkiisa siyaasadeed wuxuu ahaa shaqsi wuxuuna aan oran karaa waxa uu arkay madaxda koonfur iyo siyaasad xumadooda iyo sida ay ka yihiin arrimaha gobolada waqooyiga oo aad ogtahay xasan sheekh waan ka sheekeynayna ilaa 40 cod inuu siiyey xasan sheekhna arrintii ay wateen ay qaatumo inuu wax ka qaban waayo waxaad ogtahay madax badan oo dowladda federaalka wax ka ahayd sida cabdiweli gaas oo isaga reer wasaare ka mid ahaa inuu ka shaqeeyey arrimaha qaatumo inayan shaqaynin farmaajo sida laygu yiri ama aan xogta ku hayo buste iyo wax alaaliya wuxuu heli karo ayuu arrimahaasi iskaga daday si uusan meeshaasi eed uga uusan ama hadal uusan uga iman
marka soomaaliyaanu ka hadlaynaa waxan waa xukuumad weeye dowlad ah dowladda soomaaliya gobollada waqooyiga waxaa ka qabsatay jabhad la yidhaahda snm gobollada qaarna waaba ku raaceen fikirka inay ka go-aan soomaaliya inteeda kale sharciyan xukuumaddan iyadaa xukun ah iyadaa dowlad ah ciidamo etoobiyana iyo ciidamo waxay heshay u isticmaashaa al-shabaabkuba hadday doonaan sida xaqa ay ugu leeyihiin maamul goboleedyada ayaga doonaya dabcan ugu leeyihiin waa ay keenay dowladdu inay xil iska saarto koonfur inay qabato dhulkooda inay maamulo u samayso inay isimadooda iyo dadka beelahooda isu keento oo kuwan isugu keeni weyda waay ay uga duwan yihiin kuwa kale maxaa dhaqaale ku baxa dhaqaale maxaa ku baxa koonfur meeqa ciidan oo shisheeye ah baa jooga intaas adigu hadda ma kula tahay xamar maqaamkeeda madaxweynuhu markuu federaalka ummadda soomaaliyeed u ah maqaamka muqdisho oo baarlamaanka la fadhiisanayo maxaa u diiday maqaamka inuu ka hadlo gobollada kale ee waqooyiga su-aasheeda oo duuduuba waa rabaa inaan kuu sheego jawaabta waxa weeye ishiisa laga arkaa ushiisa lagu dilaa telefoonku fila soomaaliya kama kala go'o isimaa la hadla abtiyow farmaajow ha isku kaaye dili sida aanu nahay nooda waa kala dhimanayna oo dad la soo dir waa yahay kuwii xamar joogay ee xildhibaanada ahaa tobanka ahaa ayaa haddaad hadda wacdo oo aad su-aashaa weydiiso kama jawaabi karaan 4 sanay sii socdaana kursiga ku fadhiya kama jawaabi karaan ka wasiirka aadan ka jawaabi karin kuwa xildhibaanada aadan ka jawaabi karin dhibaatada ka taagan dhulkeenna kow innagaa sababo laba dadkaan u fududaynay baa qasi waan u fududaynay somaliland inay soo gasho meesha asar inay timaado oo deegaanka qabsato innagaa u fududaynay libaadan u gacan haadin oo gurigayga soo galo oranada albaabka ku furan iskama soo galo innagaana ka saari karna bisbuutka kelmadda lala wareegiyo niman soomaaliya oo aqoon-yahana baa dhigay bisbuutka oo weliba dhulka deegaanada u dhashay aniga kula hadlaya girgiri xarunta ugu weyn ee qaramada midoobe magaalada tegay aniga oo raadinaya warbixin cad oo ku saabsan sababta deegaanada loo go'doomiyey ee looga dhigay dispuutka ee ay u waayeen hay-adaha qaramada midoobe u tegi waayeen uga shaqayn waayeen uga howlgeli waayeen u gargaari waayeen dadka dhibaataysan ee carruurta iyo haweenka ee jadeecada iyo tixda iyo kaankarada iyo dhibaatadu haysato wuxuu igu jawaabay ninkii unicef haystay girgiri nairobi unicef oo qaaradda africa oo dhan ninkii haystay wuxuu igu jawaabay warqad garowa laga soo diray warqad hargeysa laga soo diray baa annaga noo timi dhulkaa iskuma tegi kartaan yaa soo qoray xaqiiqadu ita ragga soo qoray waa rag u nasab sheeganaya deegaanka u dhashay wey waxaa samaynaya waa innaga haddaynaan runta isu sheeginna meel gaadhi mayno oo geedkaa gaadhi mayno waa inaan marka u horraysa innagu aynu gacmo geltiro hoos baa loo dhaqay innagu aynu hoos soo wada hadalno innagu aynu xaqiiqada isu sheegno kii shalay dhibaatada dhigay ee dadka dhibaateeyey haddaynu shacabka usii tugno sidanaynu kusii jirayna laakiin qofka waa inaan ku nidhaahno adeerow intaas ha nagaga ekaato dhibaatadii aad dadka iyo dhulka gaadhsiisay weligaaba u abtarsiibo u sheego dadka laakiin kuma baahneen enough is enough tusaale weli niman guurti sheeganaya t baa weli ku dhex jira dadka oo weli sheeganaya axad walba shir bay ku jiraan weli waxay sheeganayaan in ay iyagu yihiin kuwa ugu dambeeya ee su-aalaha laga weydiiyey ismadii baa ku xigay waxay u qabaan inay iyagu yihiin number 1 cidda keliya ee deegaanka wax laga weydiin karo iyagina jeebab bay ku jiraan dad kale marka waxay haddaan isimka runta loo sheegin oo caaqilka runta loo sheegin oo ka siyaasiga sheeganaya runta loo sheegin oo aynaan inagu dib isugu laaban oo aynaan dib inagu u fadhiisan dowlad soomaaliyeed wax kuu qaban mayso qaramo midoobena waxba kuuma qabanayo cid kale wax kuu qabanaysaana ma jirto dadkaaga iyo shacabkaaguna dhibaatadaasay kusii jiraya waana inaan go-aan ka qaadano dab ah oo rasmiya waa inaynaan ka sinaysan runta waa inaynu isu sheegno waa inaynu istaabsino runta waa inaan isqabanno inagu markaan inagu isqabanno oo dhulkeenna aynu dib gacanteenna ugu soo celino shaksi kasta ama ha noqdo maxaa la yidhahdaa international community ama ha noqdo dalalka deriska waayo maxamed guutaale waa ku fasaxayaa barnaamijka bal mar baanu asaga naftiga si fiican uga doodi doonaa laakiin wax yar hal meel aynu isla eegno sharci ahaan markaad fiirisid su-aal baan rabaa inaan ku weydiiyo
gobolada waqooyiga soomaaliya waxaa laga qabsaday sideedaba dowladdii maxamed siyaad barre waxay ahayd dowladdii dhexe oo waddanka jirtay waxaa ka qabsatay jabhad baa ka qabsatay waddanka oo dhan qaarkood jabhadaha waddan ka saaray laakiin jabhadihii koonfurta laga bilaabay puntland guddigood waxay isku raacsanaa inay soomaaliya mid ah kuwaa waxaa u dheeraa arrinta go'itaanka gobolada waqooyiga soomaaliya jabhaddan aad ka hadlaysidoo leed annagaa iska saarayna ma joogaan keliya magaalada laascaanood ama dhulkan soke ma joogaan waxay joogaan magaalooyinka kale waqooyiga ee soomaaliya sida burco iyo hargeysaba su-aashaan raba inaan ku weydiiye waxaa weye sharci ahaan adoo fiirinaya xukun ahaan iyo dowlad ahaan fiirinaya yaa xil ka saaran yahay gobolada waqooyiga ama wada hadal in ay ugu soo daraan soomaaliya ama kala go-an naftigeeda la fadhiistaan oo yidhaahdaan intee dadka reer waqooyiga ah ogol midnimo soomaaliyeed oo kasii mid ahaanaya federationkan ama soomaaliya ama intee go-aysa waxa weeye anigu waxaan fakriyan aan aaminsanahay dadka shacabkaa tiri war koonfur meesha la yidhaahdo laga biloabo puntland ilaa iyo galmudug hiiraan gaar ma jiro shacab midaysan ma jiro malaaqyo ama isimo midaysan ee koonfur salkeeda gaar ama siyaasiyiin midaysan ma jirto waxa weeye caalamka dabcan waxay tixgeliyeen dhulkii al-shabaabka ka jiray halkaasna waxay ulajeedkooduna wuxuu yahay keliya see al-shabaabka haddii laga saara ay dowlad ay u noqotaa siyaasaddan waqooyigan iyagaa waxbaa ka jaynaya laakiin anigu waxaan aaminsanahay fikriyan mas-uuliyadda daradan meeshan goboladan waxay ku dhacaysaa iyo mas-uuliyaddeeda dowladda dhexe ee soomaaliya jawaabtaada ugu dambaysa qof kalaan siinaya insha allah waxaan rabaa inaan duuduub kuugu sheego anoo koobaya waktina aanu haynin adigana ku fasaxaya marka u horreysa haddaynaan inagu dib isugu laaban oo aynaan wada fadhiisan oo aynaan runta isu sheegin waxba ma suurtagelaya waa inaan inagu horta garnaqsana dowladda dhexe waxay la hadli kartaa dad wata istiraatiiji cad ama istiraatiijiyad cad oo balaan ah waxaad ka sheekaysa koonfurta hiiraan oo kale aad ka sheekaysa reer hiiraan siyaasad xumo iyo isqabqabsi waa iska jiri karaa laakiin waxaa jira waxay ka midaysan yihiin danta dadka iyo dagaalka way ka midaysan yihiin qof kastoo reer hiiraanad waa laga midaysan yihin laakiin degaanadeena lagama midaysna danta dadka iyo degaanka dadkii baa la isku diray jifi jifi baa la isugu diray qoys qoys baa la isugu diray lagama midaysna garoowe warfaafinta waxa u fadhiya nin reer SSC hargeysana nin reer SSC u fadhiya kaasi markuu jawaabo kana uu jawaabayo waa edaab dar inay kala xishoodaan oo xaqiiqada la istaabsiiyo oo aynu inagu garnaqsano ayay tahay haddii tusaale ahaan maanta dhulkeenna qolada afka duuban ay qabsan lahaayeen ay haysan lahaayeen waa la isugu iman lahaa qodobka ugu dambeeya ee aan rabo inaan kuu sheego waxa weeye qolada waqooyiga asalan gobolladooday qabsadeen hargeysiyo burcod iyo berbere qabsadeen dhulka laakiin sool iyo sanaag iyo cayn waxa keenay niman degaanka u dhashay mana ay yimaadeen ilaa maantana iyagaa ku haya waa inaan inagu dib isugu laabano oo aynu inagu runta isu sheegno ka fursan mayso in faraha dhiig lala galo khasaarana dhaco kama fursanayso taasaa marka ay noqonaysaa gayna gardhowey in markaa beeshii caalamka iyo dowladdii dhexe in laga hadlo oo lasoo fadhiisto oo la yidhaahdo meeshaan waxa ka socdo waa in la joojiyo waa in la wada hadlo adiguna markaasaad imanaysaa miiska wadahadalka adigoo dad soo dhashay ku metela masiirkaaga ku hadli kara ku meteli kara siyaasadaada ku hadli kara laakiin inta hadda xaaladdu noocan tahay dee waxay iska noqonaysaa beerka jecli hayda jecli beerka jecli hayda jecli inaan dowladda dhexe aan hadda eed kala duldhacna anigu ma qabo mana soo dhaweyn waaya mana eeday eedna uma hayo anigu inaan inagu horta dib isugu laabana habboon waxaan inagu isgaadhsiinay boogta aan isku dhufanay waa inaan horta dhayno oo aynu inagu isa soo daweyno kadibna markaa waa inaan wixii ka gudubsan arrinteena waa inaynu la xisaabtano cidda aynu markaas waaya aad baa umahadsan tahay maxamed maasan waaya waayahay waxaan siinayaa qofka kale na soo wacaya qofkana soo wacaya 573 toddobo amin 573 coloradan filaya inuu yahay kusoo dhawo barnaamijka haddaad dooda la socotayna aragtidaada waad nala wadaagi kartaa wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu waraad baan kuu salaamaya axmed laare waad baan kuu salaamaya cabdinaasir baa la yihahdaa waa masuuri baan si wanaagsan kusoo dhawo cabdinaasir barnaamijka wallahi dooda xoogaa baan dhegaysanaya adiga ninkii u dambeeyey guutaan aan dhegaysanaya ma garan
goboladaasni oo aniga arrimahooda marka dadku ay ka hadlayaan inaan in yar ka dhiibtaan anigu aan ra'yigayga aan ka hadlayaa waayo waxaan la yaabanaa ninkii lahaa inagu inaynu dib isugu noqono reer SSC iyagaa isku dhiban lahaa ninkaasaan aada hadalkiisa aan daliil uga soo jeedinaya ma garat tusaale yar baan ku siinayaa baydhabo markii la qabanayey maamulka loo sameynayay ugu dambeeyey markii maamulada Soomaaliya la sameynayay meel walba dawladda Soomaaliya waxay ku bixisay malaayiin lacag ma garat si wanaagsan waxaa kamid ah tarobo kale markii la qabanayay ee dawladdu ay sameynaysay lacag bay ku bixisay xataa ciidamadeedii markay awoodi waayeen waxay geysay ciidamo Ethiopian ah galay dhulka ma garat iyo kuwa Ugandisa dawladda Soomaaliya ama xasan sheekh xukuma ama farmaajo xukuma ama kuwa ka horeeya xukumeene dadkan aan gobolada degan waxaa ka mas'uula oo u dhaartay oo kitaab jaamaca iyo hor Ilaahay ugu dhaartay dawladda dhexe ma garat si wanaagsan waxaa la sameeyay waxyaalo badan oo xataa dastuur ka baxsan galmudug dastuurka Soomaaliya waxaan maleeyahay wadaad dhalinyaradu way wada akhriyeen ama u yaalaa laba gobol iyo intii ka badan galmudug oo gobol iyo degmahaba maamul goboleed xasan sheekh u sameeyay ma garat waa garta malaayiin lacag oo doolaraadana ku bixiyay ciidamada dawladdu leedahay iyo kuwa amisoon oo Ethiopia iyo Ugandisana geeyay iyo Djibouti ma garat sool iyo sanaagna dawladda Soomaaliya maamul loo u sameyn kartaa ciidamana way geyn kartaa Ethiopiana amar way siin kartaa waxa weeye dadka meesha isugu yimid ilaahay madaxda ka dhigay baan dadkii u qalmay aan ahayn madaxnimada Soomaaliya ma garat horta marka adigu aragtidaada waxay kula tahay mas'uuliyadii dawlad dhexe oo Soomaaliyeed ka saarnayd gobolada Soomaaliya oo dhan inay ka maqan tahay meesha haday tahay shakhsigii madaxweynaha ama wax ka xukuumad ahaanba shakhsiyan aan ka hadlayana amisanahay waa dadka shacabkina waa dad masaakiina ama suldaan ha noqdo ama garaad ha noqdo ama nin meel u qada tagay ha noqdo dadku dad waxa weeye dalka burburay horta dadka Soomaaliyeed oo dhan baa burburku haystaa oo cid saliid doofisa ama oil dibadda u iibkaysa ma jirtee ka saylac joogay iyo ka joogo Kismaayo waa isku mid ma garat waa sax waa sax cid wax isdhaantana male ama Garowe ha jooga ama Hargeysa ha jooga ama Xamar ha jooga dadku dadka dameeraha biyaha ku dhaafsadee baabaay ma garat laakiin waxaa la isdhaamaa dawladdii baa dadka qaar aad aragtaa isay ugu shaqaynayso qaar aan hankooduba gaarsiisnayn waayo madaxda imika ugu dambeysay ee soo martay Cabdullaahi Yusuf ugu dambeeyaan u malaynayaa wax garanaya ha Soomaaliyeed ma garat dowrkii madaxweynaha ka dambeeyay ma aaminsana dadkana xamar bay ka yaqaanaan farmaajana ugu dambeeyay mar la weydiinay halgamayaashu wuxuu yiri halgamayaashis khadradda ahir iyo gobolada waa beri dawaanka waxa aaminsan ma garan waa gartay khadradda ahir iyo halgamayaashii Soomaaliya u soo halgamay waa ninka hankiisu u khadradda ahir iyo hiban nuura dhaafisnayn ma garan marka inaad arka caliya waxa weeye waxba inagu canaan ma lihin canaanta waxa iskale dadkuna hadda boqor burhaan iyo islaam cabdullahan gaalka xayamooda hadlaan boqor axmed kan odagan ciida gale isaaq xukumaya kan habar walmo dadku way iswada saas isu wada hayaan ma garan dabcan waa la socdaa arrimaha Soomaaliya oo dhan hadda koonfur Soomaaliyeed oo dhan xasan sheekh waxa uu isticmaalay waxay ahayd awoodii madaxweynenimo ayuu isticmaalay dhaqaalihii dawladda dhexe ama ha noqoto tii caalamkan wuxuu isticmaalay waliba xasan wuxuu aaminsanaaba la yiri qabaa'ilaadka oo ka soo jeedo beelweynta hawiye inuu yahay dhulkoodu dhulka dawlad la'aanta ah sida la aligeedna isaga lagu taageero siyaasadda inuu deegaanka uu u sameeyo dawlad uu u sameeyo uu dabcan qaybna ka ah xasiloonida in Soomaaliya ay dawlad hesho wuuna ku guuleystay oo waxaan u malaynayaa adiga ahaantayda haddaan fiiriyo mustaqbalka farmaajo iyo xasan sheekh dhinaca musuqa xasan waa lagu eedeeyaa musuq badan inuu sameeyay laakiin maamul u sameyn Soomaaliyeed marka la fiiriyo iyo taariikh uu lagaga tago waxaan u malaynayaa xasan sheekh baa taa ku dhaami doona ninka la yiraahdo farmaajo isagu conflict buu ka tagay waliba xagga maamul goboleedeeda day 1 sidoo yimi ما isuma dhawa isagu kan waxa ay tusay oo arintii siyaad barisay 10 gobol baa tusay wayna u shaqayn weeyday laakiin xasan wuxuu sameeyay galmudug buu sameeyay xataa baydhabo isaga dhisay tuba markii hore isku dhaceen markii dambe isaga hagaajiyay xasan wuxuu ka tagay dawlad samaysan oo seeskeed dhisay oo la wada socdo ka tagay kan hadda
xataa qabtirsiino marka la yidhaahdo labadii daaroodka ula ahaabuu isla kaga tegay ma garatay isagoo waayahay waxaa tiri 18 gobol baa tiri dad badan baa waxay ku eedeynayeen farmaajo naftigiisa inuusan ba aaminsanayn ama uusan rabinba systemka Soomaalidu kadib ku heshiisay ee ah dawladda in la qaybiyo gobolada loo qaybiyo maamul goboleedyo jiraan oo isagu aaminsan yahay central government dawlad dhexe sidii tii Maxamed Siyaad Barre oo kala ma kula tahay farmaajo inuu aaminsan yahay nidaam federaali ah oo maamulada iyo goboladu inay xoog badan taasina ay batahayba halka ay isagu reer SSC iska dhaafayaan oo san ba aaminsanaynba kuwa hadda jiraba hadii uu suuroobi lahaydna uu baabiin lahaa si uu noqdo wadanka centralism intaas isagu aaminsana waayo adeero Jubaland uu ku dayay meesha laga waabiyay haday u marto Jubaland markii uu ku day lahaa Axmed Madow meesha ka saari lahaana oo ku dhawaaqi lahaaba marka way isagu ma aaminsanayn dawladda xoog leenu soo celiyo rabay taalafteeda xataa isagu ma gaarsiisna hanka xataa hadda Sheekh Somaliland iyo akaale soo qooyiyo ninkan waa iska ceel xamar wixii magaalada Muqdisho iyo meelaheeda yaryar wadada jawhar laga bixinaya inta yar baa isaga horta tan weyn oo sare male oo jamhuuriyadda Soomaaliya iyo waa ninka qalbidhaga xoogtiisa laga qabanaya arkaysa miskiinka ahaa markii dambana golihii wasiirada fadhiisana ay ku eedeynayeen inay onalef tahay dastuurka Soomaaliya waxaa ku qoran hadda xuduudku ma calaamsan inaga Ethiopia ma garan inaad u tahay kala muujiyo haddeeran kula hadlayo calaamad male waa dhibco dhulka la isku haysto dad maamka gashid waa dhibic dhulka ay ku taalo dhan waxa weeye waa dhulka aan calaamadsaneyn adduunyada ma garan marka wax rag badan ay diideen buu iska ogolaaday yeelkadiisa isagu taas ha ogolaato laakiin aan waxaan diidanahay eeda shacabka la saarayo ee salaadiinta la saarayo salaadiintu waa salaadiin masaakiina ka beledweyne jooga iyo ka qardha jooga iyo ka hargeysa jooga iyo kulli mushaharka yare $200 ay wada qaataan waa dad iska masaakiin oo iska beedhaansi oo Soomaalidu waa isku wada mid marka dadkan waxa mas'uuliyadu ka saaran tahay oo inay ciidamo ku bixiso oo gorgorgeyso oo ciidamo military ay beedhabo u geynayso Kismaayo u geynayso Gedo u geynayso Jubba u geysay hadda caawadana diyaarada geynayeen meesha la yiraahdo Galmudug caawada kula hadlayo oo niman saraakiil ay tahay fooday wax sameeyeen hadda caawa diyaarada lagu geynaya marka dawladda iyada mas'uuliyad ka saaran dawladana ninka marba jooga ee taariikh uu ka tagaa taariikh xumada isaga ka tagay xasan isaga ka tagay xasan isagu inkastoo dadkiisii ehelkiisii uu sameeyay maamul waliba jirsiyay Puntland way diidanay badan bay ka soo horjeeday gobol iyo degmo inuu maamul gobol khasab kaga dhigay lacagtu ku bixiyay waa ka badnayd baa leeyahay $3 milyan ciidamana uu geeyay dawladdu ka sameeyay shaambadii calalle marka eeda maaha anigu u malayn maayo dadka shacabka meesha degan in cabaashaa meel u qada doontay hebel meel u qada tagay wasiir wafaafin waxaas wax weyn maaha haddaba kuwa saaqa xamar jooga oo ka badan 300,000 waxay joogaan kuwa gudub girshaa jooga dadku waa masaakiin oo iska dalkaas ka baabaaye dameeraha la dhaansadaa dadku iska dhex ordayaan in adeere mushkiladu waa uu maamulka marba ninka hayaa isagayna noqonaysaa arrintu isagayna ku soo noqonaysaa waanu taariikh u galay waayahay ugu dambeyntii xilliga hadda la soo socdo dadka deegaankan ama sideedaba Soomaalidu siyaasadda waxay cabataa xilli dambe oo xeerihii fandhaal kala dhaceen doorashooyin baa soo socda xildhibaano cusub baa laga yaabaa inay baarlamaanka ama golaha shacabka Soomaaliya ka soo qayb galaan madaxweyne cusub baa la rabaa in la doorto maxaad oran lahayd adiga bulshada Soomaaliyeed guud ahaanba inay waxaan aaminsanahay Mareykankan jooga aadna waan media waan uga shaqeeyaa xildhibaanku waa qofka u qaabilsan deegaanka arrin walba oo ka haysata dawladda dhexe iyaga ku matala iyaga u afa iyaga oo ka hadla arrimahooda caafimaadkooda waxbarashadooda nabadgelyadooda maxaad ka oran lahayd Soomaaliyo idilba adoon ba kala reebayn inay dad u matali kara dad u qalma ay u matalaan deegaanaadka uga qayb galaan oo hanaanka dawladeed gaarsiin kara goboladooda iyo deegaanadooda wallahi waan Soomaaliyo horta waxa kula talin lahaa in qabiil waliba ama dad waliba ay doortaan dad danahooda iyo arrimahooda uga hadli kara at least baarlamaanka hadli kara hadda dadka xamar jooga nimanka hawiyaha waxayaan afka dhowrine 13 farmaajo ama cabsiha ku bixiya ama ku bixina baarlamaanka subax marka la quraacay kafeega la cabayo iyo marka kursiga dawladda loo shaqeynayo matalaada Muqdisho dad baa lahaa marka inaga kuweena horta siyahan kuwa hadda jooga waa niman dad keensadeen oo waxay ku shaqeynayaan يعني Puntland ahaan bay iyagu ay matalaan ninku waa dusha ka hadal gabadh baa ka hadashaa baan malaynaya weligeed soo hadal qaadayba aan malaynaya canab leeyahay
iyaduna way ku mahadsan tahay iyo gabdhaha kale dee dadaalaya marka kuwa kale waxbaba qaar waxaa la yidhi soomaalidu ninkay geela kala quusatay riyaha u dirsataay qaar aan waxbaba dee horta aan lagu aamineen oo iska ariulahi baraar horta meesha jooga laakiin soomaaliya o dhan waxaan kula talinayaa odayaashuna iyo cuqaasha iyo garaadada iyo salaadiinta intay ilaahay ka cabsadaan qabiil weliba soomaali ciduu doona ha noqdo xataa kuwa waqooyiga laleeyahay hadda hargeysaa loogu xulayaa qof waliba qof gobolkii iyo degmadu ka yimi wax u tari kara oo insaana oo xishoonaya oo u hadli kara oo odhan kara war qofkaas dad magaaladayadii waxay rabtaa kiniinkii xanuunkan coronaviruska looga baahan yahay 2 kartoon ha la siin karo ama ardaygaa meelahana loo geeyo qof odhan karaya ha geystee baan leeyahay anugu soomaaliya intaasaan kula talinayaa dadkuna inaad dhib ma qabaan ka hadda gobolada SC jooga iyo wallahi ka Hargeysa jooga iyo ka Garowe jooga iyo ka Kismaayo jooga qofka Soomaaliga waa Soomaali meel lacag dollar lama dhoofiyo qolana shidaal ma dhoofiso dadku waa dadka aad aragtay abaartuna marba gees u yaacayeen kaarto haysato ma garan waa sax weey ilaahay kaartana ka saaro aad baan ku salaamayaan amiin aad baad mahadsantahay waayahay hal qof baan ka qabanayaa insha Allah kadibna barnaamijka waa noo soo gunaanadaya ama barnaamijka waa noo soo xiraya haddii ilaahay idmo waxaan u malaynayaa gabadhan baan siinayaa ayadana haddana soo wacday kadibna barnaamijka waan gabagabeynayaa haddii ilaahay idmo السلام عليكم waa soo wacday barnaamijka live-ka ku jirtaa waxaan isiri waa gabagabeyn rabay barnaamijka aamina iyadun baa wax dumara kusoo wacay ka qabo kusoo dhowow barnaamijka kusoo dhowow barnaamijka kulle dooda waad dhegeysanaysay baan u malaynayaa waxaanu ka hadlaynaa dhammaan annagoo aanba kala reebeyn arrimaha gobolada waqooyiga oo soomaaliya o dhan baanu ka hadlaynay iyo bal arrimaha dowladdan hadda joogta ama dowladaha waxa kaga aadan iyo waxa ku aadan dadka deegaanka iyo siyaasiyiintooda iyo isimadoodaba kusoo dhowow waad mahadsantahay axmed asaasa kulley waan ila socday xoogay inta cabaara waan dhegeysanayay marka saasaan kusoo wacayo maxay ahaday xagga facebookan kala socday inaad waa ilaalinaya inaad soo gasho madhaweyd baan arkay soo ciwaankaad soo dhigtay marka waad mahadsantahay axmed waxa weeye wallahi dhulkaas niyahow waad garanaysaa dadka gabar kulle qofka meel buu ku dhufanayaa laakiin anigu odhan maayo dadkani waa masaakiin oo wax ma oga oo maxay ahayd laga dul shaqaysto oo waa iska ma garanaysaa qalin marfuuc dembiga iyaga aan u aaminsanahay waayo Soomaaliya waxa weeyaan dawladdu way ka dintay dawladdu dhexay u dintayna wax uu iska reer ku samaysan oo ku saabsan oo yab ilaaha jira badana xamar iyo area aan soo dhaafin ma garatay oo awood hadda ay meel badan oo shay u gudubto ma gaarsiisna heerka ma gaadin dawladdu marka haba ahaatee hadday doonto dawladda waxyaalo badan ka gaabisay laakiin waxa ugu weyn ee gaabiyay waa dadka deegaanka waxa weeye meeshan waxa hadda lagu dagaalamayo ee dadkan dib loogu dhigay waa xildhibaanadii matali lahaa adduunka xildhibaan baa dad matala waa sax oo dadka ka wakiil ah waa sax oo ilaa dadku dawladda way geli maayaan ma ogtahay qof baa la dirsadaa waa sax meesha bal qofkii la dirsanayay haddii qof kale kaaga wakiil yahay oo kuu dirayo maxaa ku hagaagay ku hagaayaan u fikirtaan ku hagaagaan waayahay dhibkeeday leedahay arrintaa ku soco waaye dhibkeeday leedahay marka meesha laga haysto horta waa fahantaan meeshana laga haysto waxa weeye anigu runtii arrintaas waa ogtahay axmed waa in badan baana ka hadlay waa ku daalay waa inagoo dhan ba waa ka shaqaynay laakiin anigu sida khaaska dadka u abaaraanahay odayaasha in laga haysto waxa weeyaan hadda waa kaas arrinta waxay ku filan tahay bal hadda midkaa iga dhageysta oo dad badan baa dhageysanaysaa ama hadda leef ama dib laga dhageysan doonta inta waxay ku filan tahay waxaa hadda qofka meel ku dhufanaya ee marba meel loo saaranayo eeda odayaasha duubka lagu caanashuday ee la isugu wada yimaado ee qarashka lagu bixiyo ee magaceena matalaya aniga mid baa iga wakiila adiga mid baa kaa wakiila maanta magaceena iyo qalinkeena way ku ceeshaan mooy waxba inaguma taraan ma awoodi karaan oo ma samayn karaan tuuladooda intay fadhiistaan nina gacantiisa inta la goosto garowa la dhegeysan maayo oo idin ku saxeexayn maysa nin walba inta gaadh raaca tago oo halkaa ka saxeexa deedna qofkii halkaa ka dirsaday garowa ninka ka mas-uulka abaa ku shaqaysta oo nimankan waxay la aaminsan yihiin dee waa niman la dirsaday meesha la geystay ma hadli karaan waxay isleeyihin kiibaa hadhowti dee aan ku keenay laba keeni maaye laakiin saasaa ku jirtaa
marka nimankan gacanta laga goyn maayo iyagaa tagay nin walba intuu bahadda fadhiisto waxay ku xidhan tahay keliya shir intay qabtaan oo isu yimaadaan isma wada ogolee bal intii xataa is ogol ama nin bagaarkiisa ama intii caqli leh waxgaradihi ee odayaasha duwarka lagu xidhan sheegaya maaha shacabka caadiga ah ila shacabka wax ma saxiixaani nimankan aynu aanaha ku shubnay annagu markaan hadallo ay leeyihiin iyagaan afku qaloocan la caabudayo war iyaga mu afku qaloocan iyaga xaqa iyaga cunay oo magaca iyaga ku qalaadanayo ku cunay annagu magacooda xog baan cunin iyaga mu afku qaloocan caloosha qaloocata iyaga war nimankan hala hadlo war nimankan hala qabto war nimankan shaqo tagaya nimankan gurigooda ha fadhiisteen dadkan maxay gurigooda ha lagu doortay gurigooda ha fadhiisteen oo nimankan nagu saxeen gurigooda shir intay qabtaan ha yidhaahaan annagu ku saxiixi mayno garowe iyo hargeysa midna ee tuulooyinkaydan ku saxiixaynaaye bal kaalena saxeeye shir intay qabtaan ha yidhahaan nagama wakiilaa garowe intaa kaliya ha yidhaha waaya marka adigu marka waxaad aaminsan tahay isimada ee leh saxiixa xildhibaanada in ay degaanaadkooda ay ku saxiixaan oo ay u doortaanna ummadda yacni qof matali karaya oo uusan noqon matali karaya u dooran lahaa dadkuna may dooran lahayn qof maxay ahayd la dirsaday oo madaxweynaha magaca uu dadka saa dadku intaasoo qof boqol ma raacdeen loo qof nool oo dadku wuxuu haraya hadhoona ay la xisaabtamaan iyaga dirsaday bay dooran lahaayeen laakiin qof inta saxaysay oo ay loo laabay oo meel la geystay wax la saxaday la dirsaday maxaad ka oran kartaa maxaan ku qabanayaa waxba ku qaban maayo midda kale bal ha hadleen bal waa kuwaas shir intay qabtaan afkay biyo ku wada haystaan ma hadli karaan bal arnin ha ka hadlo ina garar cali baa dhihi karaa baa ka madax banaan ina garar cali mooyaan arnin intuu shir qabta yidhaha wakiil nagama aha ma odhan karaan waa af wax cunay xisho ma hadli karaan sidaa darteed maadaama ayna hadli karin dadka shacabka ay ma doortaan waa doorashadii waa laga gacan qabtay sanadkana la filayay sanadkana way noqon weyday marka maadaama ay noqon weyday dee halkaasaa la geysanayaa halkaasaa lagu seexanayaa dadkana intay saa tahay saasay ahaanayaan wax iska bedelayaan ma jiraan gacantaan ka laabanay waxyaalo badan baan runtii maslaxdeedaan ku luminay waqti badan baa nagaga lumay wax walba waa naga galeen dadkani waxba kasoo bixi maayeen saa intay yihiin odayaasha la caabudayo odayaasha iyagu xaqa dadka cunay aan lala hadlayn aan runta laisu sheegayn maxaa dawlad kuu soo gaadhaa war horta dawlad kaa adigu aad anaa kushurta ma xukuntaa waxaad doonaysaa nin halo wuu kaa go-ay baan u malaynayaa ninka anaa ku shurtay ma hadli karaa ninkaas maxay ma odhan karta ma xukumi kartaa waayahay aamino hal su-aalaan rabaa inaan ku weydiiyo waa ka hadalnay dabcan dhibaatada deegaankan inay siyaabo badan ama dhinacyo badan ay ka imanayso laakiin tan kale ee isweydiinta leh dadkuna badanaa ayan ka hadlin waxa weeye taan dadka weydiinaya oo goboladan waqooyiga soomaaliya dabcan s n m t say u qabsatay iyadaa maamul ka samaysatay iyadaana doonaysa hadda iyadoo le waa ka go-nay wadanka inay ku fido umana ogola dhammaan xukuumadaha xamar ka jira ee kuwa federaalka inay yimaadaan gobolada waqooyiga waxaan ka hadlalay dhaqaalo fara badan oo ku baxa soomaaliya inuu ku baxo dabcan koonfurta soomaaliya iyo inta maamul goboleedyada samaysatay ma jiro qolo gaara oo maanta la oran karo qoladaas ayagaa 100% dowlad federaal ama international community-ga oo aanan caawin keligood samaystay maxaa u diidaya marka waa dhaweyd waxaa jiray bulaan badan oo dadka goboladan ay rabeen inay maamul samaystaan maxaa u diiday nimanka dowladda haysta iyaguna inay soo eegaan oo maqaam muqdisho adigu amina aan kula kaftamo dadka madaxweynaha farmaajo aad taageera tahay iyo dowladda federaalka kuguma eedeynayo laakiin dowladda federaalka waxay muhiimad iska saartaa kaliya gobolada koonfurta maxaa u diiday sida uu maqaamka muqdisho ula fariistay baarlamaanka inuu la fariisto gobolada waqooyi qaarkood in laga sameeyo maamul hoostaga dowladda federaalka waa kaaga jawaabaya walaal waa run dowladda xaq baa loogu leeyahay inta ay gobolada kale xaq u leeyihiin goboladana xaq u leeyihiin laakiin waxaan ku kalsoonigu farmaajo dowladda dhexe ugu yidhi waxaan halkan fadhina ku wada fadhinaa hadduu farmaajo yidhaaho dowladdaas waxay ahayd goboladaas maamul gooni hay samaysan intay soo fadhiistaan odayaashan odhanaya may kuwana naga wakiila wayba odhan jireen war nimankii maaha meel nimankii mikrofoonada wadan jiray ee cali khaliif iyo kuwii markii maamulka ninkii dhaqaajiba mikrofoonada u qabsan jiray soo meesha ma joog meeye maxay hadda u hadli waayeen nimankii meelaha ka qaylin jiray nimankii tifiyada kareysan jiray waayahay kuwa waa ka hadashay bal dhinaca dowladdana ka hadal mas-uuliyadda dowladda ka saarana aamina ka hadal way leedahay mas-uuliyadda xaq baa loogu leeyahay dowladda inay kaalmayso wixii la qabanayo inay u dhisto xataa laakiin waxaan aaminsanahay anigu inay weli awoodi gaarin mooyaane wax xaq loogu leeyahay way taasi
يعني ما wax barya maaha taas waa lagu leeyahay waqti dhacdana way dhacaysaa waxa weeye dadku haduu dawlad dhexe noqonayana dawlad wax la yaqaan hadii ay maamul goboleed noqonaysana ma jirto dadkan maamul bay helayaan khasabtaas waaye barnaamijka adigan kugu xirayaa waxaa tiri xildhibaanada hadda waa taasaya maantaba ha u tashteen haddaan aad oran lahayd waan la talinayaa adoo ka bilaabaya degaanka adiga hadda ka soo jeedid ama degaan walba waxaan aaminsanahay xildhibaanka maanta la doorto wuxuu samayn karaa farqi weyn ayuu ka abuuri karaa degaankaas iyo cidda noqonaysa madaxweyne iyo ciddii u hadli lahayd waad ogtahay maalin dhaweyd waxaan kusoo qoray dhinaca facebooka farmaajo waxaa wax ka helay fiqi iyo frimbi iyo maxaan ku idhaahdaa iyo tiam farole anigoo markaa ka waday siyaasiyiintii xildhibaanadii ka mucaaraday baarlamaanada ama xukuumadda ama saxaafadda ilaa iyo kuwa somalilan naftigiisa faysal cali waraabe aan ku dira afka ma uusan kala isku qaban ilaa uu dee si walba wax uga sheegay ilaa intuu kala fadhiistay jabuuti somalilan marka xildhibaanku waa kan matali lahaa shacabka isagoo si ixtiraam leh sida qaarkood aan la caayeyn beeshuu kasoo jeeda la caayeyn ama faraciisa qofka la caayeyn laakiin haddana xukuumadda loo sheego runta marka maxaad kula talin lahayd dadka marka ay noqoto hadda xildhibaan iyagu matala inay u dirsadaan federaalka waxaan kula talin lahaa oo taladu ay tahay xataa hadda degmada anigu kasoo jeeda buuhoodle waxaan aaminsanahay maanta inaan xildhibaan dadku si xor ugu dooran karin oo ayna madax banaanayn oo dadba meesha la geysanayo odayaashii baa la karaysanaya dumarkii baa la karaysanaya war meeshu waa meel ha madax banaanaato laakiin waa la wada iibsan yahay waxaan filin yarba marka meel xorriyad odayaashu intay tagaan xamar inay fadhiistaan meel xamar unbaa xor wadanka ka ah xamar intay fadhiistaan xildhibaanadooda halkaas ka saxeexdaan sida kuwa somalilan ay ugu saxeexanayaan ay si xor ugu doortaan dadka markaasay xor noqon karaan waayo xamar waxaa la yiri xamar ha yimaadaan somalilan marka ma noqonaysaa haddii aad xildhibaanada tiri dowladdu kama ayan sheegin goboladaas meelba kama ayan hadlin waana gabadha su-aasha ay raadinaysay xataa madaxweynuhu yidhaahdo ama puntland baa ku jiraan xildhibaanadiina ama waxay ku jiraan kuwa somalilan ama sida madax bannaan usoo doorta waana waxay dadka ku dhaliilayaan inuu yidhaahdo jawaab uma hayo marka somalilan baa la yiri warqadda ku cad inay yimaadaan xamar marka say ku tegi karaan iyagu xamar way ku tegi karaan iyaga xor xamar magaalada muqdishona waa xor waaniga kule magaalada keliya xorta wadanka Soomaaliya ku taala weeyii waadiga inta tagaysa mucaaradka tagaya maxaafadka hadli kara war waxaan kale waa la haystaa tuulooyinkan hadda rag u dhashay rag aan doonayn boosaaso waa lagu sanduleeyaa ma ayaga doonaya waxa la wado waaye ma doonayaan laakiin dadka waa la haystaa marka waxaan oran lahaa waxay tahay Soomaaliland hadii lagu yiri hadii qalinkayga ana iskale gacantayda maanta aan cali magacayga leeyahay ina cali jiray waxa anigu aan saxaan lahayn qof gacantayda qaadan karo magacayga aniga matali kara keedii kara waa sax odan oo dadan marka la dooranayo caleemasaarka iyo ay qabaanba dadka waa u baahan yihiin dadka maxay u maqli waayaan marka magaca ana lagu sugay qalinka loo dhiibay dadka maxay u maqli waayaan wadaashan waaye aamin xamar ha tageen sub boocan ayaa la tagin boohodan ayaa la tagin xornimadoodu waxba kuma banaana bisha waayahay aamina aad baad u mahadsan tahay intaasaan kusoo gabagabeynayaa haddii ilaahay idmo barnaamijka waa mashquulna waan ahay dana kalena ahmed khadka iga yara xune waxaan kuu sheegayaa dadkaasi rajada keliya ay leeyihiin waxay tahay inay ku sanduleeyaan odayaasha in lagu sanduleeyo xamar inay tagaan xildhibaanadana dadweynuhu halkaa ku doorto waa mahadsan tahay aamina aad baad u mahadsan tahay farmaajo muxuu ka hadlaa farmaajo ogyahay inay markii galow xildhibaanadooda eedaashii ahayn ay ku soo saxeexeen oo haddana ay diyaar u yihiin muxuu ka hadlaa ma waxaad sheegi karaa waaye aad baad u mahadsanta walaal waaye aad baa u mahadsan calaykum asalaam waayahay waktigoo nagu yar intaasaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka waa ka xumahay insha allah biidni illahi kariim habeen dambe ama berito barnaamijka xilligaas oo kale ayaan kusoo noqon doonaa insha allah waxaan ku wargelinayaa dadka ku xiran darwiish t v inaanu bilaabayno wararkii wixii maantaba insha allah loo gaaro haddii ilaahay idmo october koodeedana dhinaca satellite-ka uu kasoo geli doono t v-ga waxaan rajaynayaa insha allah dadka markaynu soo wacayaan waxyaalaha qabiilka ee la xiriira inaynu dhinac iska dhigno oo aanu siyaasadda aanu ka hadalno haddii ilaahay idmo si hufan intayna soo wacdana aad baad ugu mahadsantihiin insha allah berito saacadda markay ku aadan tahay kowda gobolkan minnesota african ay ku aadan tahay 9 fiidkii ayaanu kusoo noqon doonaa barnaamijkan aad iyo aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu